walaalayaal maanta dadka adduunyada ku nool brown iyo blue iyo cadaan iyo madow iyo jaalle iyo cid kasta ha ahaadaan social media dhinaca xunna way leedahay dhinac wanaagsanna way leedahay laakiin dad inaga oo kala ah oo mujtamaca dadku markuusan social media meelaha ay ka jirto marka aanay diin lahayn markay dawlad leeyihiin dawladahooda ka kaantaroola oo wixii laga soo dadka anshaxumada dawladaha ka qabta laakiin dawaal qabiil wax ma tirtiro markaan u fiirsaday waxyaalaha dhacaya Soomaalida ku dhacaya wixii waxaynu naqaano qabaa'il soo qofku inuu qabiil qofka kaga baqo ama inuu laakiin wax sharciya iyo wax dawlad diin islaamna qofkii ku biqi maayo sharci dawladeedna ku qaban maayo booliis ciqaabaya wadankeeni oo general ah oo la ogyahay lagu kalsoonaan karo kama jiro maadaama uusan ka jirin qof waliba wuxuu doono sida anigu maanta aan gurigeyga u dhex fadhiyo aad halka iiga daawanaysaan haddaan wax walba aan soo dhigo ma garanaysaa telefoonada igu soo dhacay raali ahaada marka haduu iga kingooyo waxaan uga jeedaa waxa weeyaan social media-dii waxaynu isticmaalnay dhinacaad u khaldan haddaad arki jirtay naag xamata ama nin xanta oo hebel intuu la xanto afka u dhuubo yiraahdo afkeena way soo amaane waxa la yiri heblaaya waa sida afkeena way soo amaane moogtay waxa dhacay inoo sheer gareeyay barnaamijka billahi caleek igu caawiya ina aniguba sida aan waqtigeyga aan maalintan shaqada ka fadhiyo idinku hurayo idinkuna iigu hura inaad share gareysaan oo aad dadka gaarsiisaan marka haddaad arki jirtay xan la dhuunto oo la yiraahdo na heblaayay ha sheegina ta sheegtaana ceeb la yiraahdo waa warley ta sheegtana ceeb ay ahayd marka waxa weeyaan waxay ku ahayd ceeb ka sheegana ceeb wuxuu naag ba waxaan inaagaha warka sheegan niman kale lagu oran jiray hadda xantii marxaati baa loo sameeyay waxaad arkaysaa naag caayayso iyada u jeedo u goodinayso soo dhigaysa aydeeda iyo wixii waa intii la isku caayi jiray hadday dumarku isku boodi jireen oo intay isku boodaan calafkooda kala qaadi jireen Soomaaliya oo la kala tagi jirayna imika Facebook ayaa la iskaga boodaa ama TikTok baa la iskaga boodaa oo xumaanta la isu soo mariya wax walba waxay noqdeenba dadka yaa daawanaya waxani ma ku raacayaan aakhirada ma ku daba soconayaan ma jirto say u soo socotay horta guriyay bay soo gashay waxaan aad u jecelahay fiidiyogan inuu gaadho dumarka Soomaaliyeed khaasatan inuu gaadho gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan inuu fiidiyogan buu gaar u yahay dhibaatooyin badan yacni nin kasta oo naag u qabay ciil hadduu Yurub joogay iyo hadduu Soomaaliya joogay wuxuu ishiri waxa kaliya kaga caarsan kartaa naagta waa adiga oo cawradeeda duuba ceebteeda u raadinayo banaanka soo dhigo ka xitaa ayna naagta ishayn xaalkiisu wuxuu maraya intooda badan anigu hadda reeruhu inay kala shakiyaan ma rabo ma garanaysaa ka xunun baa loo jeedaa meel kasta dadka xun weeye dad baa ummadda intay wuxuu sheegaan oo Facebook iyo YouTube u furteen oo lacag kaga qaadanayaan ayay wuxuu soo qorteen inay ragga Soomaaliyeed oo dhan oo shiikh laho shariif laho wanaag laho boqor laho baari laho mooriyaan leh inay wada caayaan oo hal magac ugu wada yeedhaan macnahaygu ka maaha aniga ma ihi maxsuun waxaan ahay bini aadan khaldami kara ayaan ahay laakiin waxa aan idin soo hor fadhiistaa ma doonayo inuu noqdo wax umada kala qaybiya laakiin waxaan jeclahay inuu noqdo sida qalbigayga ku jira inaad u turjumataan oo ah ina ka wacyi geliyo ee aanay ahayn inaad idinka ku kala qaybiyo ama aan rag ku tufo ama aan maaragtay gabdhaha dhinac saaro maaha waayo aniga dhinacii la israaba waa labadiina rag iyo dumar baa iminka igu daawanaysaan Soomaaliya fiidiyogan ku daawanaysaan labadiiniba waan idinahay so ma jirto oo ma iga suurta gasho inaan inamadana ku tufoon caayo darbi ku nabo oo rag oo dhan aan dhaleeceeyo oo muxuu ay dumarka oo dhan aan dhaleeceeyo maaha laakiin waa waxa bulshadeena ku xun dhacaya inaan ka wacyi geliyo macnaha inaad ii fahantaan doonaya okay waxa weeyaan marka guriyaheeni ayay fadeexadii iyo xumaantii soo gashay maadaama ay soo gashay walaasha haday shalay ku dhacday maybe inay aniga bari igu dhacdo ma ogi future-ku wuxuu ku hayo ma ogid adiga haddaanay kugu dhicin maalin walba gabdha barooran ayaynu daawanayna caruurihii yaryaraayo la dulmayo oo beerka lagaga fadhiyaynu daawanayna kuwa la dilayaynu daawanayna kuwa la kufsanayo la soo gogoyaynu daawanayna bilaayadu intay ka maqan tahay khayrka ayay ku maqan tahay mawduucaygani maanta wuxuu ku kooban yahay social media-da hadday rag tahay iyo hadday dumar tahayba in loo isticmaalay dhinaca xumaa aanayna ahayna wax ka maqan ee birita ay koonahaaga soo galayso waxa ka hadhow kaliya inaanay ku iman waxa kaliya oo ka hadhay intaydan qofka is colaysan ma haddaydan dad col ahayn social media waxa laga yaabaa xumaanteedu inaanay ku soo galin laakiin waxaad ogaataa ama mid kula dhalatay oo ehel aad tihiin ha noqoto ama mid asxaab tihiin ha noqoto
social media dii wixii lagu kala aarsanayay inay noqotay maanta waxaan ku wadaa hooyo Soomaaliyeed oo 9 caruur leh 9 dhashay oo isu dishay maanta oo dhimatay oo u dhimatay يعني waxyaalo social media da lagaga sameeyay ama rumaysan ama rumaysan waxaan ku hayaa gabdha Soomaaliyeed oo hooyooyin ah oo la qabo marwooyin la leeyahay oo gabdha Soomaaliyeed oo kale toojar gareynayo social media ku toojar gareynaya oo ka haya filimaan iyo bahalka isaga haya oo heer gaadhay inay iskuulka caruurtooda naaga kale naaga uga soo qaado fiidiyoga lagu toojar gareynaya waa inay caruurta naagta u soo qaado waa inay adeega naagta u doonto jaariyad in laga dhigto adoo marwo ah oo qabiilo dhani ku qabto oo caruur dhan leh oo caruurtaada rabeeya inay naag kale ku gumaysato because of sawir xun ay ka qabatay waxaan leeyahay marka walaalayaal fiidiyowgani waa fiidiyow murugo weyn xambaarsan waxaan doonayaa insha Allah ta'ala haday suurtagal noqoto inaan live dadkay ku dhacday sida iyagu ballan qaadeen inay idin hor yimaadaan oo aan doonayo maanta waxaan doonayaa inaan qof dambo Soomaaliya ama gabadh ah de maba jiro rage wali anigu ma arag rag koota lagu haysto wax laga soo duubay ilaa anagu baa cawra leh waxaad moodaa Ilaahay cadaabihiisa inuu gabdhaha kaliya u sameeyay waxaad moodaa Ilaahay cadaabihiisa inuu dumarka kaliya inay tahay waxaad moodaa ciqaabtu inay anaga sinadu nagu tahay kaliya fawaaxish nagu tahay waxaad moodaa anaga kaliya korkayagu inuu cawra yahay waxaad moodaa ragga inay diintu cafiday oo la yiri idinka hadaa wax duubtaan idinka waxba la idin qabsan maayo marka waxa weeyaan ina ay share gareysaan baan rabaa oo ila share gareysaan oo waxani maanta guryaheennii soo galay aad ogaataan waxa adduunka ka dhacaya aynuna wada nahino oo ayna noqonin wax qof kaliya la ooyo heer ay maanta nafteedii ku disho hooyo Soomaaliyeed oo weyni ma fahmaysaa waxaan idin sheegayaa marka waa Soomaaliyeed sidan aynu ku socono weyn dalkeennii qof baynu isu nacnay qabiil baynu isu nacnay dad baynu kurka ka jarnay dad baynu xasuuqnay dad baa gabdhaha la kufsaday hanti baynu iska dhacnay waxaasna waxaynu isugu sameynay nacayb qabiil hawiya daarood dilay nacayb daarood baa hawiya dilay nacayb isaaq baa daarood dilay nacayb daarood baa isaaq dilay nacayb wax kale bal u soo hel arqiil kale u soo hel waxa nacayb ahayn wax kale miyaad ogeyd maanta waxaan ku bedelnay marka 30 sanadood baan qax ku jirnay 30 sanadood kor u dhaafaysa wali gabdhaheenu waa la kufsanaya wali qaxi baynu ku jirnaa wali you know يعني جي دجال كلا أيا فرمي فرن دجال أو كلا أيا فرنتي أو محقة إن قبلها هوستو دي وح عروضه هودي مريه هودي إلهي يقول ده للراديو سلوقه تاشر كرايو أو أين أنا جاي نودد بدني أما ربان إني إسلت دلان أما أي نلاش أوقات عين مقارنة سا إن أنت أنا موضوع عقود الجرين أنا فاهين وحردين كربا إن هذا موضوع عن شهر كريسان waxaan doonayaa maanta anaan kaga faa'iideysto laba qolo inaan halkan uga diro laba group hambalyo uga diro marka hore inamada jooga Hiiraan anigoo ah hooyo Soomaaliyeed anigoo ah walaal Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed walaalkeed ah oo anigoo ah ilmo Soomaaliyeed ayeydiis ah anigoo ah yani wax walba ahde everything aan ahay inamada jooga Hiiraan ama macawisley la bax ama muxuu ahaayay la bax askari la bax waxaan idin leeyahay waan idinku hambalyeynaya sida sharafta leed ugu maaragtay aad uga dhiidideen iyadoo intaasoo sanadood buu idinku socday maanta inuu nasriga idin yimidna ilaahay ayaan mahad ugu idinku celinaya inaad ka dhiidideen caruurtiinii iyo dadkii la xasuuqay iyo caruurteennii iyo hooyooyinkan waxba galabsan inaad ka dhiidideen aad maanta muxuu ahaayay israacdeena waan idinku hambalyeynaya aad baan idinku hambalyeynaya waxaan kaloo hambalyo u dirayaa wanaagsan oo aan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa aakhire iyo adduunba inaan ilaahay kurba idin saarin hablaha duubay ya naagti cajirada balaqsanayda ilmaha yar saarnayd hablihii duubay ayaa inamaba waxay ahaayeen dhalin dadka waxaan leeyahay aakhire iyo adduuntoona kurba ilaahay idin ma tuso adduunyadan waxaad ka doonaysaan aad jeceshihiin Allah idin siiyo oo wanaag ah آخره واحد مركا تكتانا إلى هاي القوة شنادة هيدون كدرو إلى جارسية دتك فيديو جاس ما أنت ناتا دلميري ده المها يرقلنا يسي مربى أنت يرجوسنا يسي يا كليجاد عنتاي كليجاد عنتضع هيد مركا لا ما كان دمية يلا نسوق ليا كليجاد عنتا المها يري لا شوغنا ساهرة جوجا بحينيسي يدونا بالد جاي قصتاي إن أنت يري كبتاي ساوجد نيسي أشيرة بالبلاد نايد هبلها دوبي
iyo inamadaba hadday yihiin iyo hooyooyinba hadday yihiin akhriya adduunba liibaan baan idiin rajaynaya idinkuna aamiin u qora naagtaa hablaha dadka soo qabtay qof kastoo Soomaaliyeed oo dulmiga diida oo wanaaga ku dhaqma garabkiisa Allah galo walaalayaal marka arrinkayga intaan u gudbo waxaan idin leeyahay waxa dhacday oo jirta maanta oo socota gabadh kastayna aan kuu sheegaya maanta haddii noloshaada naag kula saaxiibi ka makhruuqdo iyo hadday doonayso maanta inaad ay xarash kuu hayso oo intaad ismaagteen ay col kula tahay waxa la doonaya oo lagu raadinaya in lagu qabto hal mar oo laga qabto ceeb oo lagu toojar gareeyo gabadh kibirta oo santaag badan hadaa tahay mid la gaari waayo kartideeda dadka ka dhex baxday hadaa tahay mid maanta yacni any weakness waxa lagu raadinaya maanta waxay noqotay wax la isku raadiyo waxa dhacday hooyooyin group ah hadda ka hor waxa jirtay qiso ka dhacday London oo masaajid gashay ilaa booliisku ay keeneen oo ahaa dumar ku hadla telefoonkooda inta ay hurdaan mooyaane inta kale aan khadka ku kala bixin baa jiray dumarkaas oo markii laga yaabay laynankooda ay telefoonada shirkadaha ee Ingiriisku la yaabeen ay u direen kuwan wax dhageystay ee wadanka ilaaliya sirdoonka loo diray markii la dirayna la ogaaday dumarkan la duubay de la yiri dadka intan ku jira telefoon human being intan telefoon kuma jiri karo caruuraha markay geynayaan dhagtay ku sitaan guryaha markay keenaan dhagtay ku sitaan hadbaska haday raacayaan dhagtay ku sitaan gabdhahaasi waxa la ogaaday wixii ay u shirayeen ee inta telefoonka ugu hadlayeen reer Soomaaliyeed gabdha Soomaaliyeed bay ahaayeen dumarka reer Soomaaliyeed bay duminayeen yacni gabadh baa la hadlayay siday ninka u ciqaabi lahayd ee dhibaato ugu geysan lahayd baa la hadlayay booliisku waxay duubaan sirdoonka waxay duubaan waxay u geysteen turjubaan markay u geysteenna waxa la sheegay wuxuuba inay ahaayeen laga hadlayaa reer la duminayay wixii markii la keenayna ninka sidii loo shirqooli lahaa sida loo xiri lahaa sida booliiska loogu yeeri lahaa ayay ahayd oo marka sheekadana mawduuciga waa tusaalaan u soo qaatay ee wax quseeya hadda ma aha gabdhahaas marka waxa la ogaaday oo la keenay oo lagu ogaaday waxay ahayd in la keenay booliisku u keeneen masaajida u keeneen si ay arrintan dadka uga wacyigeliyaan waayo qof baa la dulmayay oo la rabay in god lagu rido hadda waxaan tan marka u soo qaadanayaa waa arrin dheer bay ahayd arrintaas oo lana ka dhacday tan waxaan ugu soo qaadanayaa waxa weeye waxaa jira gabdha group noqday gabdhahan iyo ragba yacni dumarka waad maqasheen intiisan Soomaaliya joogana inta Soomaaliya joogta way maqleen intayna qurbaha joogtaana waynu ka warhaynaa gabadha markay ninka isqabtaan de dawladday u sheegtaa dawladuna ninkay jiidaa banaanka ninka loo saaraa inaga Soomaaliya marka inta layna furo ayaa caruurtana layna gala hari jiray sida imika ma aad arkaysaan ilmaha yaryar ee meelaha lagu duleynaya aad aragteen daawanayseen in yaroo laba jiroon maanta soo sheergareeyo muxuu ahaayay naagti aabihii qabay intuu ula tagay oo ay garaacdo jajabiso awowgii baa yiri laba maalmood baan soo haysanaya hayla joogaan aabihiina awowgii buu ka sii kaxaystay awowgii markuu ka sii kaxaystana naagtiisii buu ula tagay hooyadii oo la furaana haysatay dabadna inankii yaraa baa la garaaco laba jira isagoo labada gacmoodba ka jaban oo lugaha ka jaban oo xiniyaha ay ka gubtay ayaa maanta la socod aan idiin soo sheergareeyay waa fiidiyowga ku xigaan kaga hadli doona inantan yarna waad aragteen naagta fuushan tahay waa ilmo la furay saasa inta laynoo furo dumarka Soomaaliyeed ayaa ilmaha laynooga qaataa ayna u lahayn wax awoodana aanad u lahayn laba arrimood baa laynagu xiri jiray haddaad rabto ilmaha inaad kursato biil hay weydiin ilmahaaga qaado biil hay weydiin haddaad rabto ilmahayga inaan aadan biil weydiinaysidna ilmahayga isii amaba in xoog lagaaga qaadan waxba lagu dooransinoo loo qaybiyo habaryar iyo eede iyo ayeeye iyo hooyo iyo dad loo qaybiyo laga qaado adigoo qayr mas'uulo sidii aad ku timidna ka weyno dee caruur dhalay oo hooyo ah muxuu laakiin u faramaran sidii markii lagu soo hooyay inan baad ahayd oo rajaad lahayd laakiin adigoo bilaa rajaa oo murugaysan oo caruurtaadii lagaala hadhay baad Soomaaliya leena diri jiray iyagoo muslina ayay rageenu oo wadan muslim jooga ayaa waxa laynagu hayay ma garanaysaa muxuu maadaama taa laynagu hayay halkan maanta rag aan diintii lahayn oo diin islaam ahayn ayaa la hoos galay sharciga dhigteen waxa weeye ama cadaan ahaw ama Soomaali ahaw sharciga Soomaali kaliya looma sameyn haddii gabadha iyo reerka aad isqabataan adiga nin oo baxaya macnuhu ma aha inaad adigu qayr mas'uul laga dhigay macnuhu waxa weeye caruurtan baa guriga leh oo lagu haynaya adiga waxa ka dhigaya dibad meer ilmahan ayaan la ogoleen dibadda in la dhigo
adigu admahaad adigu uma danayn jirin dadka jilicsan ee maxasada ah marka adiga ayaa banaanka halkan lagu dhigaya waayo reerka adaa u xoog weyn adiga iska celin kara banaanka laakiin ilmuhu banaanka inkastoo xaafadayda maalin dhaweyto qisa cajiib oo dumarkii oo dhami ka yaabeen ay ka dhacday oo nin baa intuu caruur xaasiisi maxkamad saaray buuyada iyo ilmihii banaanka dhigay waa sheeko cusub ninkaasi waa nin sharci yaqaana laakiin kolley meel unbuu ka wareego wuxuu galay luuqa buu galay okay waxaan markaa hadda doonayaa in aan sheego waan ku keenay sheekadan dee sheeko markaad gelayso araar iyo waxay kaa rabtaa duluc halkan markaa nin kasta oo ka baqaya in dibadda la dhigo xataa wuxuu yidhi khayrku waxba kuma yeelee shar u tooghay waxay noqonaysaa xaaskiisi iyagoon isqaban inuu kamarad sii diyaarsado inuu wax kaa qabto ma garanaysaa oo xitaa rag aan raggoodii caruurtoodii ishaynin oo dumarkoodii ishaynin oo isqabo oo xaax iyo maax isku ah qofka og in la saari doono hadduu dagaal dhaco ama hadduu naag soo guursado inka la saari doonaa inuu kasii dhigto ma garanaysaa waa kaa qaaday walaa dhammaanta waa idinka qaaday salaanta soo dhawaada inuu kasii dhigto cudhaadh video baan kaa haya carisaar ma garanaysaa waxa weeye markaa dadkan Soomaaliyeed waxa weeyaan maadaama gabadhii deeyaduba nin raggi booliis uga yeedhayso raggii cadaawad bay arrintaa u arkeen maadaama iyagu wax saari jireen oo iyagu wax furi jireen oo iyagu wax silcin jireen oo ilmaha kaala hadhi jireen oo ku baabi'in jireen halkan sharcigani sharci iyaga loo samaystay kaliya inuu yahay bay u qabaan guriga iga soo horjeeda aniga gabadh cadaan baa degan gabadha cadaan ee degan waxay haystaa laba ilmood oo yar yar iyo nin saaxiib oo la nool ilmahana ninkay u dhashay wuu ka tagay waxa maalin dhaweyta u yimid walaalkeed oo naagti soo burisay oo English oo cadaan ah in Ingiriis oo cadaan ah u yimid intuu laba wiig la joogay intii meel la dajinayay markaa la joogay gabadhii ninkii intiiba ayba laba wiig ahaynba laba ciyaal baa loo soo tuuray wiil iyo gabadh yar baa loo soo tuuray guriga walaashi badarkaas asagoo dharkii ku harwarwaranayo ka soo gurayo yacni nin la soo eriyay labadii ilmoodna loo soo tuuray isaga iyo carruurtiisa guri bay dowladdu siisay ma garanaysaa sharciga waddankan markaa waddamadan caddaanku ma aha sharci gabdhaha Soomaaliyeed kaliya taageeraya laakiin lagama ogola haddaad idinkoo muslim ah oo Soomaali ah oo sunniyiin ah aadna dulmayseen dulmiga un baa la diidaye meeshan sharcigu annaga nalama dhalan laakiin waxa way wiilasha Soomaaliyeedow inaad intaad sharciga aragtaan aad guryihiinni ilaahay idiin xalaaleeyay iyo gabadha ilaahay kuu xalaaleeyay aad maalin walba ama meel kastaba joogo aad kamarad la daba taagnaataa oo adigu aadan futadaada xun iyo qaawanaantaada iyo mulucsanaantaada iyo lugahaaga aadan duubine aad iyada cawradeeda duubtaa iyana ay guri kuugu dulmanaataa dee wax xaqa ma aha videogaygana marka maanta wuxuu maagan yahay marka hore intaanan u gudbin marka hore Soomaaliga gabdha Soomaaliyeed oo hooyooyin ah iyo wiilal Soomaaliyeed oo abayaal ah ayaa fadeexadan sameeyay aridinku horeeyay waxa reer Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo maanta inaga hooseysa Allah u naxariisto garanaysaa iyadu nafteeda gacanteeda ku dishay inkastoo ay xiskeeda qabin oo de xiskeedu una caadi ahayn hooyadaas caruur badan ayay lahayd caruur sagaala ayay lahayd iyo xabad ninkeedu dhalay oo iyadu ayna dhalin oo ay soo kursatay guriga ayay ku wada carhaysay caruurta ninkani wuu tegay lacag fara badan ayuu qaaday Soomaaliya tegay waa nin weyn oo odaya waa dadkii Soomaaliya isku soo qabi jiray wuxuu soo dhisay guriyo dhowr goor markuu noqnoqday adigu markii dambe dee malaha saaxiibadii waxay yiraahdeen ninkaagan iska soo noqnoqonaya waa maxay de gurigan weynaa dajisay dadka ka saaro kirada ka saaro dee soo naag soo gali wuu guursaday reerku way isku xumaadeen markuu xagga yimid cilaaqaadkiisii cilaaqaadka reerku way xumaadeen markii ay xumaadeen adigu dadkii baa Soomaalida wixii baa u kacay waa dadkii dhaqanka walaala war isku soo celiyay reerkii sidii caadadu ahayd diinta islaamka in dadka la dhex galo hooyada markaa caruurteedu waa dad wax bartay way shaqeeyaan qaarkood meelo gaar ay degan yihiin laakiin wali wax guursaday ma laha iyada iyo guriga waxa ku soo haray 3 caruur ah oo ay labana ay dhashay midna kii ay gabadha kala dhashay yahay iyo aabihii oo dil isku soo celiyay caruurtan iyo waxaan reerka iska deganaa ninkii waxa weeyaan gabadhiisii adigu markaa wuxuu sameeyay inuu gabadhii kamarad ka duubay markii guriga lagu soo celiyay kamarad socotay adigu bilo badan ayuu ka duubay gabadhii
dee mar buu is arkay in la magaranaysaa marid wuxuu yidhi muxuu maridage allaha daga buu yidhi marka dambe anaa isdagay maadaama markii hore lagu saaray isku ilaali buu isiri dee bastoorada isku ilaali kabaradiisii buu furtay kamarad waliba aan telefoonkiisa ahayn qarsoon buu soo gatay qolkiisa hurdadu gashaday adaaba ogde waxa weeye cawrada gabadha uun buu duubaa adigu markii dambe ninka uu markii reerkii la isku celiyey wuu noqday wadankiibuu ku noqday dhowr bilood buu maqnaa wuu soo noqday sidii caadadu ahayd banaanka albaabka furaha laga bedeshay waxay tiri aniga iima soo noqotid maca salaama ninkani gabadhan uu la hadlay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ku imaado oo aan guriga dharkayga ka qaato caruurtii waxay yidhaahdeen anaga hooyadeen ayaan la safanahay haddii marba aad reer yeelanayso ood hooyadeen ka tegayso dee caruurta wadankani qurbaha ku kortay ma ogola dulmi aad anaga maalin walba hooyadeen dulmiyayso intaas oo bilood iska maqnaanayso mas-uuliyad baniya oo aadan wadan dee hooyadeen noo dhaaf oo naga tag wuxuu yidhi waaye dharkaygaan soo doonanaya hooyadiina waxaan rabaa inaanu wada hadallo haddaanu ku heshiinana warqadeeda waan siinaya waayo hooyo ogolow guriga inuu aaba yimaado alaabtiisa ha qaato waa feer baa layidhi caruurtii iyo gurigii ka wada maqan buu yimid qolkii fadhigaa la wada fadhiistay gabadh ay daris yihiin ayaa guriga joogtay oo gabadha la joogtay gabadhii jikadeeda dee iska gasho nin iyo naagtii wada hadlaya waa la carbaar bay waxay tiri hadalka waan maqlay anigu waa la wada hadlay ninkii markii gabadhii uu la hadlay ay tiri aniga waxaan warqadaydii hayn ima maraan dibna iguma soo geshid maya intii markii la heshiisiiyey intay israaceen oo magaalo kamida magaalooyinka weeyaane guriga meesha laga dhisay iyo wixii ay tageen ayay hantideedii iyo waxeedii la wareegtay iyadu ilmaheedaa raacay 2 wiil oo waaweyn hantidaa waxaa inay bah u leeyihiin oo caruurta oo dhamma ay ku qoran tahay bah ahaan ayaa loogu soo qoray iyada iyo caruurteeda ay leeyihiin waxaas laakiin gabadhan la guursaday in guriga laga saaro shaqana ayna ku lahayn gurigii baa laga saaray gabadhani maxkamad cad bay tagtay gurigeedii way la soo wareegtay waxa la wixii hanti bakhaaro kreysna guri weyn boosas maran oo la iibiyey 2 wiil oo caruurta u waaweynay iyada israacay odagana waa la kaxeeyay hudeel baa la digay waa la isku soo wada qoray way soo dhamaysatay wixeedii gacantay ku soo qaadato ninkani wuxuu ku yiri marka anigu hadaa doonaysa inaan ku furo dee hantidaydii ii celi oo waraaqahaygii waxay baan dib u rabaa waxay tiri anigu hantida anaa ku tabcay hagbadii aan caruurtayda anigu muxuu aayay sabaayada u dubayay ee aan ka galay markay yaryaraayeen ayaan ku dhisay 9 caruura ayaa iska leh shuqulna kuma lihid hadday dhintaana aad dhimatidna iyagaa leh haddaad nooshayna iyagaa leh dee wax aniga i raacayna maaha gabadhii waxa weeye markii adigu hadalkii dee meeshii ay iyadu rabtay ay dhigtay ninkanina uu arkay wax rajo ah inayna jirin bastooladiisii buu la soo baxay ma arki jirto qof la howlgarayo la yidhaahdo hansab taa gacmaha oo gacmo bastoolad loogu fiiqo kamaradii unbaa loo furay waxa le saaxiib taasaan kaa haya anigu inay soomaaliya indhaha beesho oo ay cawaranto markay ku daawato ayaan ballan ku qaaday filimba midba mid gabadhii naqaskaa ku dhigay waa yaabtay waa shoogtay waa muraara dilaacday wax qofka bini aadamka ah ee ilaahay abuuray dadku ma wada adadka dadku ma wada aha dad strong ah dadku ma wada aha dad yacnigi ilaa xad marka wax ku dhacaan sidii la rabay uga falceliya gabadhii waxay arrintii gayaysiisay isla maalintii inay tiraahdo guriga joog oo uu ka dhameeyay inuu guriga ka bixin caruurtii markay yimaadeen la yidhi hooyo maxaa la dhameeyey ay tiraahdo hooyo aniga aaba waanu heshiinay da waan iska daayey inay ilmihii dareeraan 3 la deganaanay yidhaahdeen anagu waxaa ma qaadanayno sii noqo soo noqo sii noqo no backward forward ma soconayso ilaa iyagu xamooge inay isagii la coloomaan yidhahdaan ka bax guriga inay iyagii la dagaalanto ilaa waxbaa laga hayaa ay tiraahdo daaya aabihii in la yidhaahdo waa lagu balaagmeel garay hooyo maxaa ku haya maxaa kugu dhacay what's wrong with you this man waxa weeyaan he's dodgy he's cheating you waxaanuu sameeyey waa khiyaamoole aba fiican maaha role model maaha waxaanu nagu samaynayaa na dhaafi may alloore haddaba annaka iyo isagana kala dooro 2 daran lagu dooransii waxay tiri isagaan doortay waayahe kuwii 3 la joogana waa baxeen iyadiiyo isagu waa intuu doonayay gurigii kaligii bay kusoo hadheen heer wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhahda saaxiib xitaa si aan naaga la taliyo iyo da ay u waramin ma lihid
qof hebla uma tagi kartid kan ma tagi kartid hagbadan galayo aynu galayno ana nimanka taksiilayaal aqaana ana bastaray faraqaana halkan aan ku daraya isagana la siiyo in lacagta bixiso hooyadii يعني wax waliba way soo dhamaadeen waxay ku jirtay sheekada muddo 6 sanadooda 6 years ayay ku jirtay inay markii dambe isla hadasho oo paranoid qaado oo ay dadkii dariska ah tiraado hebel iyo hebel bay iga hadlaya oo wixii dhan maskaxdeediba ay qaafto isbitaalada la geeyay waxa la yiri muxuu ahaay xanuun baa ku dhacay mental health issue bay haysataa waa kan quraan baa la saaray wadanka la geeyay waa la soo celiyay wax afgaranaya ma jiraan qofkan meel baa mudan orin aad murugadeeda u leh ninaad maanta 9 caruur u soo qaaday oo intaas oo sanadood dhowr iyo 30 sanadood isa soo qabteen oo maanta noloshaadii sida u baabi'inaya oo markuu arkay gabadhii inay dhulka gashay oo aanay maanta waxba ku noolayn oo maskaxdeedii isdhaaftay oo ay wixii laga hayay ku qarowday oo waa lay caynaya waa lay ceebaynaya heblaaye iga hadlaysa dumarkii dariska caydso heblaaye kale telefoonkii la soo diro qofkaas telefoon ku hadlaya ay gabadhii maskaxdeedii isdhaaftay uusan xitaa oranin war waxaan sida gabadhan sida ka awsani oranine uu isagii dhooshi ka qoslay maalin dhaweyto markaa adigu bari dhaweyto oo hadda ay 3 bilood ka soo wareegtay ayay cusbitaalka aan ka shaqeeyay la keenay iyadoo oo markaa la leeyahay inay isdishay rabto kaniin bay cuntay aniga gabadha ma aqoonin laakiin gabadh Soomaaliyeed oo aniga shiftiga iyadoo habeen ku jirtay aniga maalinta aan soo galay ayaa waxay igu tiri waxa xalay la ii keeno saaka la qaaday xalay kaxaynay hooyo Soomaaliyeed oo suicide attempt ahayd oo soo disho kaniin cuntay oo hooyo weyn ah waa la keenay waxay tiri muxuu ahay dadkii wax aan la joogin wax yaanigi maskaxdu ka fikiri karta maaha waxan gabadhii waxay ku hadaaqaysaa hebel bay dilaya hebel baan ka hadlaya hebel baa iqaaqayraya hebel baa sidana waana wixii laga duubay maskaxdeedii dhan waa isdhaaftay caruurteedii ma oga wiilasheedii ma oga yani maanta sharcigi waa dhinaceeda waa cyber attack waa la xiri lahaa waa la qaban lahaa wax kasta way laakiin sababtii waxa qornay inay saa ku tagto oo taa sabab looga soo dhigo oo ay nafteedii 10 isbitaal la geeyay oo 10 dawo loo bilaabay oo wax kasta la sameeyay ilaa ay markii dambe iyadoo gurigii laga maqan yahay isna uu odayaashii la talinayay yiri hadalka duub ay halka xarig iska geliso iyadoo daldalan gurigeedii loogu yimid ma garanaysaa yani waa arrin murugadeeda leh waa yani gacan ku dhiigle weeye waxa kaloo muruga ah oo arrinta oo dhan ka daran yani gabadhaasi maalmihii ugu dambeeyay ee isdilaysay waxay soo dhajisay inay wiilasheeda ku tiraahdo hooyo hayga tagin wuu idilayaa wuu iqaawinayaa caynkanuu iyeelayaa anigoo qaawan buu dadka itusayaa hooyo anigoo qaawan buu dadka itusayaa hooyo ha iga tagin wiilkeeda weyn markuu yimaado hooyo ha iga tagin ninkan wuu iqaawinayaa dadka dhan buu itusayaa markaasaa la yidhi waa paranoid waxay ka dhacday Ingiriiska laakiin gabadhis dishay un baa loo arkaa de hal gabadha un baa murugada la nool iyaduna maanta ay arinta ay ogtahay taan doonaya maanta qof baa dhinto qof baa ka soo baxa xabaal oo ku soo noolaanayo isagu wixii qabsaday ka sheekaynaya waa maya hal inan dumara ayaa og arinta iyaduna maanta la nool oo dhibaatada la nool oo wax walba og oo hor dhigtay maanta caruurtii inta ay ka qarinaysay hooyadood waxa isla dishay maanta iyadoo dhimatay maalintay dhimatay bay hooyadood soo hor dhigtay ilmaheedii soo hor dhigtay markay hooyadood dhimatay ayay soo hor dhigtay waxa hooyadood iska dishay waxa yacnigi maanta iyadaan ku yiri Soomaali u waran adigu hadaba maalintan videogan maanta aan kala hadlayo video ka horeeya maalintan duubayad intii daawanaysay oo ahaa Soomaali dumarow dhibaata idin soo baxday kollayba hadii la idin qabo gogoridiina madaxa iskaga duuba aan lahaa oo muxuu ayaan wajigiina la arkin ninkii ina duubayo kii la inagu ogaayay meherka inagu qabay gabadhaasi videoga intay daawatay ayay ila soo xidhiidhay arrintaas dhacday yacni intaasay ka dhacday iyadoo buugaha qoran ayay haysataa
maalin walba wixii dhacayay maanta isaga wuu cararay caruurtii markay ogaadeen wuu cararay ilmihii markii loo sheegay telefoonkii bay qaateen telefoonkiisay ka xadeen iyadoo aaskii una dhicin ayay telefoonkii qaadeen way daawadeen way heleen wax kastoo gabadhaasi u sheegtay dhalinyaray noqdeen oo ismay odhanin sharciga geeya oo maanta muxuu ka qabaa dhaha hooyadeen waa aragnay waxaad ku samaysay waana daawanay markay dhaheenna habeen madoobu telefoon jiirka goostay oo magaaladu gabadh xaaska yar ku qabay ayuu aaday iyaguna hooyadood sidaasay ku waayeen maxaa murugo ahoo ka xanuun badan maanta caruurtii waa og yihiin intoodiiba waa og yihiin wixii hooyadood laga duubay iyagiibaa arkay iyagiiba wixii hooyadood ku lahayd kusoo noqnoqdeen hal wiilba iminka weli show ku jiro hooyo ha igaga tegin hooyo ha igaga tegin dadkoo dhan buu ii sheegayaa wax hadalladay hooyadii markuu qaqabanayay ay lahayd ayaa maanta hor yaallo oo run ah ma garanaysaa ummadda soomaaliyeed yacni waxa maanta dhibaatada ugu xun waxa weeye qari inkastoo gabadhaasi dee maanta ay gabadhaasi dhaarisay oy kitaab marisay arrintaa ha sheegin si uun baan uga baxayaa ha sheegin markay caafimaadka qabtay ay ku tidhi iyaduna ay ballanteedii oofisay calaqal maaka markay aragtay inay isku daadatay xitaa gabadhu isma odhanin war heedha waxani wixii wuu soo dhaafaye ummadda u qayli oo ama caruurta wax u sheeg oo hooyadan hala badbaadiyo laakiin waxay ku qornaydoo ku baxaysay ahayd markay caafimaadka qabtay bay dhaarisay oy tidhi waan ku aaminayaa arrin baan doonayaa inaan kugu aamino intaanan kugu aaminin kitaabkan mar oy martay intay horteeda ku weysatay martay inaan kaa sheegin mana ay odhan na walaalo waxani wax la qarsado maahee ninkan wax kaama qaadi karo wuu ku qabaye sinana kuugumuu tegaynine waxaan aad arkayso muxuu ahaayey aan sheegno oo ninkan qabiilkaaga u sheeg oo caruurtaada u sheeg oo walaaladaa u sheeg oo soomaaliya markuu tagay labada nugood ka jabinayaan u sheeg may odhan aamu bay tiri anyara shib bay tidhi maalintay weyday iyadii ay dhimatayna intaa ay walaalaatay ee dhibaatoonaysay ee marba cisbitaal la geynayay ee waawaaran tahay la dhahayay ee mental healthga la geynayay ee meel walba la marinayay shuq ma odhan maantay waxay leedahay inaan sheegay ahayd haddaba kaale adigu soomaali u sheeg maan ku idhi adigu soomaali kaale hor fadhiiso aniga u sheeg haydhihine adiga laftaada warramaya dee kaale aan kaa warransiiyo kaasoo guraya adiguna soomaali u sheeg waan baqayaa isagii baa weli noolo isku magaalaan ka nimido waan baqayaa ma fahanti oo ma mujrimka aad og tahay qofkaa inuu dilay sababta looga soo dhigay baad ka baqaysaa ma garanaysaan halkaasaan maanta maraynaa ma odhanayo anigu ragga soomaaliyadow halkaasaa maanta maraysaan ma odhanayo waayo ragga soomaaliyadow haddaan dhaho aabbahay baa ku jira waxaanoo kalena weligii muu samayn walaalahay baa ku jira wiilkaygaa ku jira weligiiba naagtaa koruguma eeginoo xaafidul quraar oo xaas leh ma odhan karo sheekh mustafa ku jira sheekh umal baa ku jira ragga soomaaliyeed markaan idhaahdo sheekh maxamed idriis baa ku jira sheekh dirir baa ku jira ma odhanay ragga soomaaliyeedo laakiin waxaan leeyahay culimada soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda waxani markay ku dhacaan xalkeedii keena maanta waxay maraysaa dadkii inuu saa u dhintee xalkeedii keena oo ummadda ninkan xaas kale anigu I'm not talking about yacni waxaan xusuustay xanuunada niminka dadku kala qaadaan sida aidiska oo kale yacnigii inta badan wuxuu ku dhacaa dadka dee meelaha xun isaga tegi jiray berigii hore markaad eegto yacnigii waxaa dee lagu abaal marinayaa dadka ilaahay subxaana watacaala cadis ku dhacda waxyaalaha xunxun sameeya soo maaha okay qofkii labadii aniga odhan maayo maanta waxaan ka hadlayaa waa qoys xalaala gabadh gacanta la isugu dhiibay baan ka hadlayaa hooyo ahoo degan baan ka hadlayaa waxaan I'm not talking about nin iyo naag intay de iyagu israaceen meel iskula saaxiib ahaayo iyagu dee xaaraantoodii waxooda walaaqanaya kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan xaas reer soomaaliyeed ayaan ka hadlayaa okay gabdhaha soomaaliyeed meel kastay joogaan mid baan leeyahay talaqabo waxaan leeyahay marka aniga maanta maaha wacyigelintaydu inaan idhaahdo dumarka u ragga ha guursaninoo yaaca macnahaygu maaha gurigaaga iyo waxana maaha waxa weeyaan gabadh walbayba wixii ilaahay ku siiyo waa nasiibka arrintani hadday kugu dhacdo oo ay arrintanoo kale dhacdo waxaad ogaataa
maalintii lagu guuriyey ee la yidhi wiilkanow hebel hebel oo meherkeedu intaa yahay ma aqbashay ee uu yidhi qabiltu hooyaa baa ninkan lagu siiyey maadaama oo lagu siiyey inuu kuu tegayo ood guri wada degaysaan oo aad reer noqonaysaan dee ballantaa ahayd inaad muxuu ahaayey sariir isugu tegaysaan oo jamaac idin dhex marayana ballantaa ahayd ballantu ma ahayn ninkana gabadhan muxuu ahaayey uma tegi kartid qabiltu dheh haddii cawradaada la duubay soo sheeg adigu intaanu isagu dad tusin adigu qayliyo waxaad tidhaahdaa hayaay waa lay duubay dheh raggii gacanta dhiibay ku soo celi arrinta soomaali oo dhan ku soo celi maanta social media xaafad la wada degan yahay noqotay waxaad ka baqaysaa soomaha social media inay lagaa daawado waxaad gabadh baan daawanaya doraato la qabay oo tidhi ninkiiyo weli i qaba ayaan ka tegey waxaana la iigu hanjabayaa inuu filima iga duubay waxaan ka qaraacansanahay bay tidhi hooyaday reerka iyagow iyo muraara dilaaca idinku dhici doona calashaan iyadiyo qaawan baa la horkeenaya cayaartumaysa maxaa ku dhacaya reerkiina waxaan doonayaa maanta kalsooni buuxda inaan ku siiyo xabiibti dhis kalsoonidaada naag la qabaa tahay be proud waxaan maaha inaad adigoo xaaraan sameynaya lagu soo duubay adigoo naag la qabaa hadday waxaanay kugu dhacdaan kula hadlaya oo farintani kugu socotaa waxaan kuu sheegayaa inaadan u hamran waxaan kuu sheegayaa inaan lagugu dulaysan inaad soo dhigto hadduu soo dhigo inta adiga kaa horrayso oo aadan ogeyn ka daba kaalaya waxaad tidhahdaa alaab la kala haya ma aragteen alaab sii jeeda ma aragteen mid soo jeeda ma aragteen anaa leh waxa weeye waxa aad daawateen ayaa igu yaal ninkii lahaabaana idin soo hordhigay soo maadan fahmin in la dilo iminka waxay ka dhacday garowe shalaydan aan idinla hadlayo nin baa lagu toogtay garowe dhulbahanto ah gabadh dhulbahanto ana kufsaday oo dilay markuu kufsaday waa la raadiyey waa la soo helay waa la toogtay mid ka horreeya walaalkeed baa nin kaloo ka horreeya saasoo kale ahaa oo gabadh kufsaday waa la toogtay raggaa rag dheh soo maadan fahmin ha toogtaan raggiinu hadday rag kaa dambeeyaan oo walaalo aad la dhalatay kuwaasaa kuu dilaya midda labaad ha noqdo dayuusaan gabdhuhu u dhowaan waa inaad wejigiisa iyo magaciisa iyo qabiilkiisa iyo reerkiisa aadna bartaayood keentaa maanta waxaan rabaa fideogaygu yahay gabdhaha soomaaliyeed kalsooni inaan u xambaariyo gabdhaha soomaaliyeed kalsooni inaan u xambaariyo guurkaanan kaa joojinayn raggoo dhan ka shaki baanan ku odhanayn raggoo dhan baa xun baanan kulahayn waxaan kuu leeyahay waxa weeye walaal cawre keligaa ma lihid ummadoo dhami cawray leedahay adiga horta meherkaaga iyo guurkaagu tii ilaahay ogolaaya waadax ahaa ha ahaado marka hore ma fahmaysaa guurkaagu ka waadaxa ah ee aan la isku inkirayn horta ha noqdo ma garanaysaa horta ha noqdo ma garanaysaa guurkaagu kii waadixa ahaa ha noqdo arrintani horta waxay meesha ka saaraysaa haba hargab bay ku dhaco cunahay xanuunay markaa xanaaqeen arrintani waxay meesha ka saaraysaa horta qudbasirtii horta ay baa cunay naagtii bartime lagu qabayey ama lagu qabi doonaay ama hadeerba hunguri kasii hayooy libaax baa soo galay libaax meel libaax soo galay lo ma joogaysa lugaha isku duwo ma fahantay hayso waxaaga ama xalaal cad baa la qashaaye dhiib ilmahaad adigu dhashay oo 9 bilood aad ku dhashay ee aad calooshaada ka soo saartay yaa ee aad dadka sida loo xidha bartay ee hadalka sida loo barto aad bartay loo hadlo ee sida cuntada loo cuno aad bartay ee xaalka ka soo meereysay intaad ka baqdo qudbasiriya lagu guursan oo kamarad laga duubin oo lagu oranin alaabtaadii aragnaye ninkani goorma ku guursaday way wuxuu oran karaa waan la sinaystay de ila lagu guma ogeynine qudbasirta iska joojiya kamarad marxaatigeedii wato meel la dhigaynu haynaa horta wadamada sharciga leh hadaa joogtaan gabadh kasta oo wadan sharci la joogtay waxa soo kale haday kugu dhacaan boolisku meesha ka xiga waa taqaana sharci baa ka yaala waxa soo kale aw hebelow meel uu la aadaya ma jirto fiidiyoyada degso lawyer u tag waxa way maxkamad soo taag cyber attack waa kana ninkaygi isaga ay qabay
diintaydana waa badil waa la dilayaaba naftaydii baa khalad ku jirta inaan isdilaaban ay halis oo anigu isdilo maalinta tiraahdo wuxuu ku jiraa muxuu haayay xarig ku jiraa mental health state kaygii normal ma aha waan isku yaco waan isdilayaa arrintan aan isu dilayaa markaa tiraahid waa u dhamaatay waxa kala oo jirta meel allaale meeshii filimka la geeyay Facebook iyo YouTube social media iskale aaladaas ama TikTok meeshii la rabaa la geliyo wala daadinaya meel walba laga daadinaya wala laga saaraya soo ma fahmin indhihiina inta furtiin kalsooni maanta xambaarta ma fahanti waxa la yiri haday tala kugu cadaato cirkugu onkoda waxaad ciirsataa waa calooladayd ada iskale waxaan maanta inaad adigu aad laysu kaaso muxuu ahaayay jirkaaga ay ka dhalato daciifnimadaada ay noqonin qof adigoo kala ah oo 9 bilood ku dhashay oo waxba ku dheerayn oo laga yaabo inuu ka naxasiisan yahay ka cilmi hooseeyo ba adiga ku dulaysanaya oo sababtu wad naaska uga qaawanayo cawradaadu qaawan buu duubay ma waxaan meesha lagu ogeyn ba wiil kastoo daawanaya gabadh kastoo daawanaysa inaan asturanahyna waa yarkaan waxaan marada ku xidhan ku dadanahayna way og yihiin inay cawra tahay waxaan marba marka iga dhacdo saa ugu soo qabsanaya soo yotimahaaga la arkin ma maxaa kale yaala hadii timahayga cawradeeda la keeno khalaas soo dhig qabiilkiisa isna inuu guur beelo oo social media la isugu tago oo la walhiyo oo la yiraahdo waa kaas hadaaba la dilin ayaa laga ballan qaadaya yaan lagu gumaysanin oo nin muxuu ahaayay saqajaan maanta intaad guursatay ragga Soomaaliyeedna ha u caynin cid kalena ha u dulminin isagoo inay hebel soo dhig ma fahanti soo dhig oo yaan maanta adoo gabadha baa wax lagu leeyahay nin baa ku shukaansaday habeen buu kaxeeyay sidan uu yeelay no hayeelin soo dhig gabdhaha aan la qabin xataa ee wiilashu intay shukaansadeen dabinka u dhigeen ee maalin walba la leeyahay waa lagu toojar garaynaya naa waxa iska ilow khaladku mar buu dhacay ma garanaysaa qofku khalad wuu ka dhici karaa khaladkaad gashay su'aal baan ku weydiinayaa jirkan horta yaa leh adiga leh yaa ku siiyay ilaah baa ku siiyay hadaa dambi ka gasho naftaada ilaahaygu ku abuuray aad ka gashay ilaahay baa ka raba toobad celinta Soomaali kaama rabto ha ku raali galin qof bini aadan inaad naftaada dulayso qaladka haduu ka dhaco gabadha haw waa gabadh un weeye waxa la dulminayaa ama hooyaha noqoto ama yaan la qabin ama ha la qabo shaygaasi shay aynu suuqa ka saarno oo aan xiiso loo qabin baa la rabaa in laga dhigo hadii war nimka lagu yiraahdo heblaaya ku tiraahdo waraan ku hayaa de ma joogtaa ha waa ku soo socdaa maanta war baan ku hayaa war wala taan ku sido dad badan baadan la hadleen labaayay tiro maxay wada baad leedahay mid kale ka soo hormartay tiinta inuu soo gaadhin heblaayo waxay kuugu soo socota miyaad garan saasaa dhacday na hadalka xiisa ma u qabtaa naagtaasi kuugu soo socotay hadii ba lagu sii tafaariqeeyay oo mid kale intay ku timid heblaayo waxay la soo socotaa waa inta war sidaay markaa waa kaas horeeyay miyaad u qabtaa xiiso maya qaawanaan dambe si aan laynooga duubin oo laynoogu toojar garayn waa in la tusaa saqajaamiinta waa inaynu tusnaa inaynu aanay waxaasiba dhicinba oo dhicin maxay soo dhig ma fahamsaa maxaad soo dhigaysaa adaa imanaya anigu kuguma waaninayo recordka jabiyo ninkoo qaawad khabar la daba soco oo ku ifitoosho no waxa laga rabaa inaad kalsooni jiraahid ma garanaysaa si cad aad tiraado dhageysta anigu talab kamarad badiga haysaa ha sawiradaadi iyo waxaagina waan hayaa soo ma fahmin qabiil iyo wiilna waan ka dhashay intaad enjoy gareyn kartid ku enjoy garee labadeedna waa keena ku adkaada dhe hayaabo hayo wala inta leedahay hanjab naag iska dhig ha kugu qaadato xitaa inaad wax disho samee oo naftaada wax raaciso laakiin inaad lagu dulaysto oo diraado waa la idiray oo sidana la yeelay oo kala maalin walba gabadh lagaga dul oohiyo ma yeelayno hooyooyin maanta ay naftoodii ku waayeen oo isku dileen in kii lagu ogaa 30 sanadood ninkii qabay waxay isla soo galeen qurbaha iyagoo ilmo kaliya isule wan ilmo iyagoo isule ay isla soo galeen wa alaykum asalaam wal aash soo dhaw ay isla soo galeen maanta iyadoo ciraysatay inuu nafteeda halaago oo ay gacanteedii nafteeda ku disho oo isagu sababo maxaa keenay waa daciifnimadeena iyada ilaahay baa u qoray marxuumadaas laakiin inaga waa daciifnimadeena inaga in layna yiraahdo maalin walba meel ay nagaga oohiyo
oo kii ina qabay iyo mid kastaba yiraahdo iyo kii ku shukaansanay ku yiraahdo faal baan ka duubay wada qoniimadeena Soomaaliya fahmin waxa weeyaan soota barxaatiga fur ma aniga uu iqabay waana ninkaygii waana digu ogeydeen so what waxa dhacayde way kane yaa lagu jeesanaya yaa la wada caysanaya de waa isaga la caysanaya qofka la caysanaya waa isaga adigu ceeb ma lihid naag la qabo marwaa baata xitaa haddaan lagu qabin oo uu kula sheekaysanayay gabadhi waligeed ba la sheekaysanaysi mar walbaba qofka bahalka sita fiidiyowga qofka sita ayaa adduunaya aakhiraba cadaaban mar walbaba qofkaas ay cadaaban mar walba isaga maanta ceebaysan adigu marnaba ma ceebaysnid haddaad adigu maanta mar wala qabatayna hadalkeeda badaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay naag adiga kala ah bal rag waa bal arkay bal gaxa waa qisada labaad aan raaciyo horta marka hore dumar saaxiib aha oo group aha oo saaxiib annaga caawana madaxaana furan haddaanu nahay heblaaye madaxaana furan duruucda la soo ekaysiisto arooska laga wada waxeeyo snapchat-ka la isugu waxeeyo iyagoo meel wada jooga 9 snapchat soo wada gala coffee shop ka wada fadhiya live music la tumayo oo doon korkeeda la aado wax walba la wada raaco ayay ka dhex qaraxday ila saaxiibtinimo dumar markeeda horeba samid sad male moogta waa xasaradu ayay ka dhex qaraxday waa la ciloobay laba la fiijiyo dhinac loo eriyay groupkii markii laba laga saaray ayaa labaduna waa single maadaro waliba waxa weeyaan mindida lisaya ma garanaysaa single maadaradu qaarna caruurta iyo guriga iyo waxay qabanayaan bay iskaga jeestaan qaarna mindiyahay lisaan single maadaro mindida lisaya rag baa loo adeegsaday single maadaradii waxa la yiri gabdhahaas baan doonaynaa inaad u tagtaano muxuu ayaan telefoonadooda aad halka anaga idin siinayna Facebook aan ka soo helay dhaho halkan aan ka helay dhaho waa ka dhac ku dhaha haye waxaanu doonaynaa inaad sawir ka qaadaan oo arrimahaas aanu doonaynaa nala gashaan lacagna waan idin siinayna kuwan waxba ka nixinde dad baa mooday dadka qurbaha jooga inay wada in libaxsan ka taabtay yihiin warda quraacda loo qaadaa jira oo koodnay wal maanta quraacda iga bixi oo halka leysinimo iyo saqajaanimo ka gaadhay qolyaha maqaaxiyaha ka ugaarsada oo muxuu ahaayay dharka hood yaa ka dhintay barigan Soomaaliya joognay hoodayd macnihiisa ma aan fahmi jirin moogtahay hoodayd baa leesko macnaha hoodayd baa lama oran jirin waa who yaa ka dhintay who dharkan yaa ka dhintay who died darkii tukaamadii way ka jiraan horta Soomaaliya joogtay tukaamadii ma garanaysan yaa ka dhintay halkan ay buuxaan marka jaakadihii qaaliga ahaa de odayaasha dhintay iyo dadka gaboobay iyo dadka kale ee cadaanka lacagta leh iyo dharkiyo qurux badan bay geeyaan oo dad waxeeyaan dad rag baa ka iibsada halka oo intay ka iibsadaan surwaalka iyo jaakadaba meesha ayaa ka dhintay ka iibsadaan xabad yar oo cadaran iyo dooyo daranaysa soo mariyaan ayay marka quruxdu madoobaato meelaha ka qadhaabtaan gabdhahan oo midiyaha lisayay baa laba nin oo ku liseeno gabdha soo direen laakiin ma garanaysaa labadii gabdhoodba waa laga qabtay arrintii xun ayaa laga qabtay labadiiba markii laga qabtay ayaa labadii nibada xurta gabdhii ku qabsadeen guriyaha la iska yimaada midii faxlay xataa furihi bay koobi siisay oo tiri markaan maqanahay guriga iska yimo ku qubayso guriga waa gurigaaga iyo cuntadana ka curo waa ku ka bal gurigaaga iyo nima shaqadaan kugu lahayn furihiisa la siinayo ka waran oo la oranayo mana hadli kartid gabdhii waa la tusay gabdhuhu waxay moodayeen in raggan kaliya ka hayo laakiin naagii baa loo gudbiyay ma garanaysaa asxaab liila law ayaa loo gudbiyay markii loo gudbiyay ayaa la yidhi maadaa hadli karaa dhac oo loo soo tuuray gabdhihii ma hadli kartid saaxiib ishubtaa ayaa heesta ma garanaysaan ishubtaa heestaa la yidhi aba wuxun baa maanta ay hayaba waan kogay gebigaygiiba gabdhihiina ilaa hadda maybe inaad daawato gabadhay maybe inaad daawato waxaan rajaynayaa inaad daawato on aad u jecelahay inaad daawato waxaan ku leeyahay walaal adaa iskale waxaaga dambigaad gashayna ilaah baad ka gashay haddaad waxaaga tafaariiqaysatana adaa iskale hadduu jacayl ku qaadayna adaa iskale haddaanu ku qaadina adaa iskale waxaan ku leeyahay isdaba qabo dulinimada intaad iska dayso
adoo hooyo ahoo carruurtaada rabaynaya intaad dulinimada iska dayso waxaad tidhahdaa waryaa iyo iyadaba ku soo fadhiiso iyagoo dhanna soo dhigdhig xilligay kuu soo direen sawirada waxaad ka qaadaa screenshot naagta sawirkeeda telefoonkeeday ka soo dirtay telefoonkeeda oo whatsappkeedii ah ayay kaaga soo dirtay fideoga adiga ninku kaa duubay soo maaha screenshot ka qaad soomaadan garanin soomaalina soo hordhig marka iyadu ku tiraahdo screenshotka u dir waa inaad soo dhigtaa naagaha ayaga wanaagsan iska dhigaya waa fataalado marka hore nimanka iyaga idiin soo diray inay nimanka iyaga isku xidhan yihiinna waad ogaateen weliba waan idiin sheeka dhaafee ninka furaha la siinayo wuxuu dib ugu noqday kuwii soo diray midkood buu dib ugu noqday u guursaday hadda kuwii soo diray mid baa abaalmarin waxay uga dhigtay inuu gabadhaa ceebteeda u keenay ayay nafteeda u hibaysay eeg nin naag qaawiyey oo ka duubay oo naag hadalkeed maqlay ayaa sidii loo sheekaysanayay ninka furaha loo sawiray naagihii soo diray mid ka miduu guursaday oo qabaa oo hadda aroos u yahay bal adigu arag naagtii gabadhii lagu wada duulay labadii dumar ahaa waa lagu wada duulay naagahani niman bay bareen nimanka ma iska dhigina iyagu bareen xagga kale ka soo wareegeen nimankani naagahanay la xidhnaayeen gabdhihii baa laga duubay fideoyo labadii gabdhood wixii laga duubay groupkii baa loo celiyey oo loo diray groupkiina waxaa la yidhi madaa hadli kara saaxiib isubtaa heesta dhac waa loo diray nimankiina naagihii bay relationship la leeyihiin maxaa gabdhihii lagu sameeyaa haddaba markii naagihii ka qabteen mid waliba loo soo diray carruurta iskuulkay ka soo qaadaan cuntadana guryahay ku kariyaan gurigeeda intay sabaayadda iyo suqaarka ku dubto yaa mid baa reer waqooyi markaasay sabaayad fiican bay dubtaa anaga gabdhaha reer waqooyigu sabaayadda waa ku lambar 1 sabaayad bay dubtaa markaasay naagta kale gurigeeda geysaa iyadoo sabaayadii dubtay oo xambaarsan ayay gurigii intay tagto huufarka mariso ayay carruurtan iskuulka ka soo qaataa naag adoo kale abaa ku gumaysataa harkaad joogtaa sanadkeed ku jirtaa nacas yahay waxaa lagugu toojar garaynayaana waa cawradaadii oo qaawan bal naagta ma bastalad bay sidataa mise cawradaada dadka dishaa dambi baad gashay qof uru raxiimka labada gacmood u taagataa kugu xidhan laba ragcadood intaad qubaysato aad tukatood ilaahay ka toobad keento ood ilaahay u tukataa kugu filan meel cawra wax ka tahayba ma joogtid adduunka mar joogo hadeer xaggeed joogtaa waay baad dambigaad gashay ood ilaahay uga toobad keeni karto aad qof bini aadani kuugu toojar garaynaya how come naag cadowgaagii ah oo fideoga kuu soo dirtay oo ninku iyada guursaday oo ninkii uu kaa tegay oo uuna ku qabin oo uusan waxba kugu ahayn sidee buu maanta intay ninkii iyo naagtii u qoslayaan adna aad u murugaysan tahay ood naftaada u dilaysaa oo cilmiheeda iskuulka uga soo qaadaysaa iskuul ran baa lagaa dhigtay adigii iskuul ran subaxiina way soo sidaa galabtiina way soo sidaa ingiriiska waxaa ka jira baabuur la dhaho iskuul ran oo gabdho shaqo soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan iyo wiilal soomaaliyeed oo carruurta subaxii sii guraan subaxiina galabtiina soo xaraabiyaan oo lacag iyo mushahar la siiyo tiyoodan mushahar ku qaadan baa ku haysataa sirtaada iyo waxaagiyo dhab wax allaale wax lagaa hayaa ma jirto aniga haddaad i daawato waxaan ku leeyahay wax lagaa hayaa ma jirto wax aan cawradaada ahayn naagta cawradeeda adiga naagta waxaa kugu samaynaysaa ma wadnahaad laadahay adoo ku boodaaba laguu qaatay adoo booliiska u sheegaa laguu qaatay screenshot ka qaado booliiska ugee intaad qaado waa ka dhalambarkeedu ninkaasaa waxaa igu sameeyey dhe soomaadan garanin ninkaasaa waxaa igu sameeyo ii yimid ingiriiska macaan bay ka tahay naagta inay tirahdo ninkan saaxiib baanu ahay kamaba ahee yaa kula hadlaya booliiska dad tirahdo ninkani boyfriendkaygii buu ahaa sawradanu iga qaaday naagtaasan col nahayn buu u diray iyadii baa ii soo dirtay way igu toojar gareeyaan way igu blackmail gareeyaan this is the time ay ii soo dirtay oo booliisku arkaan isaga iyo iyaduba jeel bay gelayaan carruurtaad sii qaadaysana dib uma arkayso na xaggeed ka qoran xaggeed halkeed joogtaa halkeed joogtaa inta lagu kaxeeyo oo lagu geeyo hudheel ayaad cuntadoo dhan kaarhkaaga soo marisaa oo lacagtaad keerka ka soo shaqaysid ayaa lagaa qaadaa oo ninkii kaa duubay ee kaa hayay sawirada qaawan iyo naagtii uu qabay iyo gruubba intaa la tagaa la yidhahda heblaaya adaa bixinaya caawee bixi oo carruurtaada biilkeeda aad haysan lahayd ayaad bixisaa nayaahe xaggeed joogtaad ku nooshahay maxaa kaa qaaday wadnahaagii maxaa kaa qaaday dadnimadaadii maxaa kaa qaaday diintaadii khaladkaad gashay baa lagugu toojargareeyey mada akhraba gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala waa qofur raxiim dambi haddaad gashay
naagtani waxay ka haysaa waxa weeye adoo ninku u tagayo ninkiina iyadu maanta u tagayaa soo maaha ninka iyo naagta waxay samayn karaan ilan cadaam cawra waxba uma samaysee waxa la soo dhigaya waa Soomaali waa qabiilka iyo saaxiibada iyo soo caruurtaadi waxa arkaya soo maaha cadaam waxba kama aha booliiska inta tagto ninkii naagta bajeelka dalaq ku sii naagta adiga waxa kula doonaysa caruurteeda waa iyaduna singalka ay tahay ilmaheedana wuu uga tagi doonaa ninka waxa sameynaya anigu ilma Soomaaliyeed dulinimadooda ku farxi maayo laakiin waxaan ku sheegayaa guriga inaad albaabada u xidhi karto doqonnimada ku haysaan la yaabay doqonnimada ku haysaan la yaabay doqonnimada ku haysa ayaan la yaabay labada gabdhood ee waxa lagu sameynayo mid waa Yurub bay ka timid markay wixii u adkaysan weyday ingiriiska way ka guurtay Yurubteeda bay ku noqotay telefoonadina way bedelatay meel looga sheego wixii ama la yiraahdo waa laga soo waxaynaya ma jirto waxay way bedelatay wadankeeda Yurub bay ku noqotay gabadhii ingiriiska ahayd ingiriiska deganay ee gurigeeduna consulka ahaa aan guuri karin ayaa kabaha la dulmaray waxaan rajaynayaa hadday suurtagal noqoto anigoon magacaaga sheegayn oo qabiilkaaga sheegayn oo meel aad degan tahay sheegayn kalsooni halkan baan kuugu xambaarinayaa laakiin waxaan rajaynayaa mar inaan albaabka kugu soo garaaco anoo walaalnimo kuula socda oo raba inaad garabkayga ku oydo oo raba inaan kula karbaasho kuwaas oo intaan sawiradooda qaato isaga iyo iyadaba heede aan social media Soomaali intaan u soo dhigo Soomaalina ay shaabuga la daba dhacdo waxde iyadii isagaba ayaa rajaynayaa kor madaxaaga u qaad anigu qabiilkaaga waan aqaanaa magacaagana waan aqaanaa xaafadda degantayna waan aqaanaa adiguna inaan adiga ku garanayo waad garanaysaa laakiin waxaan kuu sheegayaa dulinimada waxa ku helay waa duliyiin waxa ku helay waa saqajaamiin waxa ku helay waa ay Soomaaliya fahmin aan ilaahayna ka baqaynin laakiin adigu waxaad samaysataa booliiska ba kaaga filan sharciga wadanka joogta kaaga filan dicifnimadu xagay ka gashay adigoo maanta booliiska u tago yiraahdo gurigayga kuma noqon karo macal furihiisa waa la koobi garaystay oo furaha bay iga maqan oo booliiska tusax kugu filan isagana waa la jeebaynaya iyadana waa la jeebaynaya cadayntiina waad haysataa cadayntii isma og riqiisada xun ay is-ilowday ee ay ku soo dirtay kuugu hanjabayso waad haysataa turjubaan baa wada turjumaya waxa Soomaali kuugu qorno dhalo lagu soo wada diray turjubaan baa turjumaya hurdada inaad maanta xageed aaday hurdadan ku dahay wallahi waan daalana adigoo kale hurda kuma daahda lagu soo qoray sida ku ogo horta sheekada badan inaan hayo adigoo kale hurda kuma daahdo ilmihii iskuulka ka soo qaad maxaa lagu yiri waxaan kuu sheegayaa meesha ka kac meesha inta ka kacdid waxaan ku leeyahay iska celi wax hadaada wax iska celinay private-ka ii soo gal isoo raadi private-ka ii soo gal ii kaalay ana wax ka celinayay ana ballan kuugu qaaday inaan ka celiye oo labadoodaba daaqad kala boode oo sharciga ku tusaye aniga ii kaalay hadaadan kalsoonida ahayn ma doonayo maanta carruurta yaryarada hooyada u tahay ee aabaha u tahay ee adigu kaligaa korsatid ee keerka caguhu ku balaadheen inaad maanta ku murugana hoos oydid oo maanta sida taa koriyo hoos ba u oyday ee dhibaataysan ee maanta iyadu nafteedii intay xiskeedii weyday nafteedii qaadatay inaad noqotid Soomaaliya fahmin xabiibti naag iska dhigo madaxaaga kor u qaad wax iska celi hadaadan wax iska celinayna qof kale ha u tagin aniga ii kaalay ana waxaan ballankaaga qaadaya waxaad itiraahdo baan sameynaya intaan noolahay waan la noolaanaya qabrigana waan la gelaya inaan qof bini aadana u sheegin oo aanan magacaaga sheegin oo meel aad degan tahay sheegin sheekadaasna inaan iyaga ay ku noqoto hadaad rabto inaan Soomaaliba la dhil garayn oo Ingiriis la dhil gareeyana ciidamada inta muxuu aayay guulashan dhaadheere baastoladaha ku sita dhabarka intaynu u dhiibno ayaa arki doontaa isaga iyo margiyadiisa xunxun oo la garaacay Soomaaliya fahmin oo maxkamadna soo taagaya Soomaaliya fahmin waxaan ku leeyahay walaalo inay naag ku yeerato adigoo kala ah oo ku tiraado jaariyad noqo oo ku tiraado ilmahayga soo qaad oo ay ku tiraado lacagtaad shaqaysatay maasha mari oo nin iyo naag isugu ka tagaan naagad culowdeen ay waxa kugu samayso kaliya waxa laga hayaana uu yahay sawir adiga qaawan iyo nin aad wada joogtaan isagiisa qaawan laftiisa ayaan dhigaynaa haddaad ka badin weydo Soomaaliya garanin waxaan la yaabay gabdhaha nimankani hadaan iyagu cawradooda duubin oo kaligiin idin duubeen kaligii
ninka ku duubay magaciisu waa cawradiisa qabiilkiisuna waa cawradiisa odayaashiisa iyo odayaashaada Soomaaliya ku wada hadla cawradiisa ah oo naga soo garbaxa la yiraahdo qabiilkaaga ragooda ayaa ka dambeeya halkan hadda ay buu xiradan ku fadhiya ninkii hasha socodka badan u mahmahay muxuu yiri xiraday marba ilmihi kaga xidhan yahay hal maalmihi lagaga xidho iyadoo waa mid socod badan jin iyo insi iyo muxuu ahaayay xawayaan iyo bini aadanba waa laga helaa wax socod badan hal habeenkii bay dhacdaay markaas ay carartaa neefkii bay marka ku ogtay xirada waxay soo meereysatay xirada ay timaada dhacay buu yiri waligaaba maqnaa xiradan ku fadhiya haddii qurbahan la mooday inaan lagu kala adkayn oo qofku isleeyahay qurbaha wax lagaga ma qaadi karo qarankiiba wax lagaga qaadi kara isagoo bartan jooga oo aan dhoofin ayaa xaal iyo xumayn iyo muxuu wax walba lagaga qaadi kara wadankii oo gargar baa la tusay rag baa ka dambeeya Soomaalidan garanin waxa ugu badan ee qalbigaaga ku jira waxa weeye oo ninka ay naagtaasi kugu handadaan filimo ayaanu ka duubnay dadkana waanu ku tusaynaa adigu qawan baanu ku tusaynaa ma aha qofku wuxuu intaasi ka baqo oo noloshiisa u dhiibo in waad iswada dhiibtay marka waxaan leeyahay gabadhaas intaasaan leeyahay tii ku roon inaad dulliga ku jirtid oo naftaada qaadatid oo maskaxdaada weydo oo ilmahaagu lumaan oo lacagtaadu dhacanto iyo inaad wax noqoto oo aad waxani wax marku soo maray aad ka dhigto dib u eegto oo aad ka gilgilato labada bay ku dooransan tahay hiil hadaad u baahan tahayna cid kale kuugu yeeri maayo anaa booliska ku raacaya anaa booliska kula dhacay anaa ku turjumaya lawyer baad u tagaysaa booliskaad u tagaysaa waa lagu soo qabanaya naagta waa la soo qabanaya waxeedo dhan baa banaanka la geynaya maxkamad baa labadoodaba la taagaya waa cyber attack waa blackmailing waa slavery kaarkaaga maalintaad marisay iyo maqaaxidaad marisay iyo meesha tagtay iyo inta qof ee lacag ku cuntay ayaa xitaa la tusaya biilkana bankigaynu ka soo qaadayna lacagta bankigaaga laga soo qaadaya rasiidadii oo leedahay intaas oo lacag aan bixiyay oo iga qaateen waa modern slavery weeyaan Soomaaliya fahmin in la qabto oo la xidxido ayaad arki doontaa laba ragcadood inta tukato heede breefadka ii soo gal anna waxaan ku tusayaa kabtooda inaan kor tuuro waa ballan naagta xun ninka ugu hibaysay gabadha ceebteeda aad ii keento markaa waan ku jecelahay annaka madaxaana furan le waxaan leeyahay meel dheer maad gaadhin geel caruuri qaaday ma dheera gabadhaas aad maanta waxaa ku wada samaynaysaan sharci baana idiin tiigsan haddaad xamisho aad kliibkayga daawato waa intayna iga soo gaadhsiinayso inaad jeel ku urto heede oo adigu maanta gurigeeda aad galangasha ka dhigtay iyo xoolaheeda aad cunaysa lagaa soo mutajin waayo waad arki doontaa dhe adiga ninka margiyada xullan waligii wadanka ka shaqaysan ilkahina xataa ka dhaceen eede hagbada ugu gashay inaad turki geyso oo aad ilkaha ugu soo samayso waan ogahay inaad ilkaha qaadku ka riday aad u soo samayso dulliyad yahay waa dulliyade gabadha walaasheeda maanta intay qaaday habeenay isku dileen meel waxaas oo dhan u samaynaysa waa markaad gashaa markay ii ogolaato inaan arrinteeda soo galo anigana waxaan ku tusay inaan sawirkaaga qaado aan social media saa u dhigdhigo andhada waata naagtii lagu guursaday gabadha cawradeeda waata naagtii lagu guursaday ee nafteeda ugu hibaysay in gabadh qaawan loo soo duubo sida habartii burada lahayd wiilasha xamarow gabadha ma aragtaan kufsada oo idinkoo fuulaya ii soo diray aan ku siigayste oo aniguna aan ku siigayste lahayd sideedii ayaa inta adiguna Soomaaliya dhib ku caysanaysaa haddaad maradaada ka carari weydo waa hadday gabadhaas ii ka fasaxdo ilan meelan ka duqeeyo ma helayo hadda waan ku duqeyn karaa waana ku soo heli karaa laakiin waxaan ku duqeynan karin ma taqaan ilaa ii ka fasaxdo ogow inaan ku ogahay aan kugu maqanahay ogow gabadha waan xoodaaminaya naaya kole waad daawan doontaa sheekadaada bas igu soo gaadhay waa kliib kan ma kii ka horeeyaan duubay in kliibkayga lagu soo dirayna waan ogahay kana maanta tii ku soo duurta ku soo duubi doonta tii ku soo gurmatay ee aniga ay ka soo gaarsiisay ba horta kana ku soo tuuri doonta markaad dhageysato naagnaag Soomaaliyeed hayga urin cad xun iguma yaalo waan ku aaraya inaan ku aaro oo adna aad doosha ka qosasho iyana inay kugu hor ooyaan ayaan wallahi ku tusaya anigu la dadka maliqo ma dile sharci ba ka qabanaya sharci adigu haddaad leedahay wadanka systemkiisa ma taqaanid luqad ma taqaanid waxba ma taqaanid way isugu ka tageen aad leedahay waxba ma aha ana albaabada u soo xiraya adigu iskaan hablaha la shukaansada waxaan leeyahay mar walba la yiraahdo muxuu ahay hebel baa iga duubay leeyahay waxaan idin leeyahay arrintaas fiidiyowga la qaawan inaanu waxba ahayn qofku ka weynaado
oo fiidiyowga inta lagu mashquuli lahaa qofka lagu mashquulo ayaa Soomaali laga rabaa laakiin idinku haysduleynina sidii gabadha yarada maalintii dhaweyto inta soo fiidiyow marba lagu handadayay ee lacagaha laga gacunayay ee wax walba la sameeyay waxa weeyaan waa inaad fiidiyowyada marka la idinku handado aad tiraadaan ma fiidiyow badiga haysaa ha oo waad duubtay ha hadaba deal with it adigu ku enjoy garee cidda doontana soo dir markuu waxa weeyaan aad marka digniin ka dhigatid saacada markuu telefoonka ka dhigo inaad soo gasho xitaa haddii dadku ma wada hadlo ma garanaysaa xitaa dadku ma wada hadlo kaliya waad oran kartaa Soomaaliyay saasa dhacday ama waalid hadaad leedahay waalidkaaga u sheeg hooyoy aabow walaalow ninkaas saasa dhacday arintaas dhacday video ban ka hayaa buu yiri reerkiina ku wareeji cid hadaadan lahayn oo hooyay aabi ehelaadan lahayn Soomaali ba ehliya aab ku ah waxa tirada nin baan bartay saas oo ahaa video buu iga duubay ma fahanti video buu iga duubay gabar baan ahay waa la igu handadaya inaan isdhiibana ma doonayo day badbaadiya Soomaali dabadeedii dhabarkeeda soo gal Soomaalina maxay sameynaysaa sawirkiisa keen qabiilkiisa keen magaciisa keen gabdhaha oo dhan baa waxa laga dhigayaa qof kasta oo Soomaaliya oo wax boost gareeya sawirkiisa la soo raacinaya waa la xayeysiinaya iska jira dal iyo dibad xaafadaha markuu soo maro waxa la odhanayaa caruurta dhagaxa ku eriyada sawirkiisa inta la printer gareeyo waa in lagu dhadhajiyaa nin kasta oo gabadh ka duuba sawirkiisa la printer gareeyo inta la printer gareeyo sawirkiisa oo la qaado Soomaaliya magaalooyinkooda dhan lagu dhajiyo ciyaalka toobta meelaha la taagan tabeelayaasha ku soo dhajiya ciyaalkuna samaradaha ka duuma ninka lagu qorana ninkaasi gabadh buu ka duubay gabadh buu qaawan ka duubay hablaha iska ilaaliya lagu qoraya meel kasta sawirkiisa lagu dhajiyo qabiil social media hala la galo muxuu ahaayay meel walba lagu soo dhajiyo adigu in lagu badbaadiyo Soomaali ilmo markuu soo carrax ku gala hooyada dhabarkeedu gala marka qof eriyay hooyo iga reeb Soomaha Soomaali dhabarkeeda soo gal rag iyo dumar Soomaali dhabarkeeda soo gal iskaan laakiin dulyaan lagu dulaysan in lagu dulaysto iska ilaali inaad lagu dulaysto oo qof adigoo kaliya ku dulaysto oo lacag ka qaato oo ku balaag meel gareeyo oo maalin walba bartan iigu kaalay halkan iigu kaalay ay yiraahdo waan ku intaad ragaaga diyaarsato waxa tiraahdaa xakan kugu yimaada ku balami shan baan garasidato ragiina ana ka hayso iyo ehelkaaga Soomaad garanin way inay saa qurbaan naftayna ka bagoynin laakiin waa inay bahalka yar sita ee adiga kula doonaya inuu kugu toojar gareeyo xabin kamid ah ka jaraande maxaa kugu dhacay isaga laftiisa intay qaawiyaan ha ka duubaan ay dhadan sii soco sida gabdhaha modelka marna soo soco ka haysa rag isaga laftiisa inta la qabto hal qaawiyo والله إن مجالك كست أنت اللي قرأ إنما يريد العقب على يدين سينا يا نيكا قبطة إن اللي يجهدوا أو اللي يجهد الصاق قبطة كدوبة قبيل بيانا دهين إنما على قبل منها إنما غير والله إنك جبرك كدوبة هذا أنا بوسو شيء سنة يبا والله إنك مجالده الدجن يهي إنما الدجن أو اللي يرى إن اللي يجهدوا جلا نيكا أنت صحد نيكا إيه كان سيده هبرتي برغان لهيد إنما ده هيرانو أنا وحرنا يا نيكا جبر داقاوي أو وحكان ويلك إيه كان isagoo qaawan ka soo duuba lacag baa la siinaya ninka gabadha ka soo duuba ya soo dhiga dabadna waa ina social media lagu wada tuuraa isagoo muxuu ahay walaq muxuu ahay fitaxuno daayeera dhigaya halkaan waa in lagu soo duuba gabdhaha horta in laga caaga weeyo wuxuu la keeno xal la keeno ana lacag ku bixinaya hadda ka bacdi mushaharkayga ayaan ku bixinaya gabdhaha la duubayo ninka duuba marka la cadeeyo ciduu yahay iyo qof meeshu joogo ilaahu mu walaalkay noqdo soo qabta dabadna la yiraahdo inamada jooge yar halka jooga lacag baa la idin siinaya keena dooxa meesha aad aragtaan intaad geysaan marka ka dhigtaan duuba garaaca isagoo qaawan oo dhareerinayo qaawan keena idinkuna social media ku soo yaaciya saa markaad ugu soo yaacisaan ana idinka iibsanaya videogan iibinayaaba nala ninki gabadh xeeya Europe Soomaha iyo wadamada sharcigu ka jiro na booliska idinku filan markaad ogaatay in lagu balaag meel gareynayo maxaa sameynaysaa marka ninku qofku ku soo waco ku film baan ka haya wax naxay iska dhig intaad wax naxay iska dhigto waxa maxaa kugu dhacay mid waalan tahay walaalo waxa weeyaan waxaad igu sameynaysaa maaha wax waan kugu sameynaya kaasaan yeeriya markuu ku dhaho ee aad ogto markiiba telefoonka intaad dhigto soo download gareyso muxuu ahaayay telefoonkaaga ku soo download garee programkan duuba qofka codkiisa ku soo download garee codkiisa waa inaad uu ku duuban yahay markuu ku soo waca ninkaasi codku waa inuu ku duubnaada duub codkiisa booliska kugu dhaw u geey
Soomaali baa ma la oranaya turjun Soomaali baa turjumaya maxay tahay slavery dhac maxaa kugu dhacay waad good masaa uga dubcodka nin ha noqdo ama naag ha noqdo qofka dambe ku balay meel gareeya telefoonkaaga codka kaga duub cadayn keen sidoo kula hadlayo ku balay meel gareynaya Soomaaliya ha noqoto halkan ha noqoto duub waa inaad keentaa codkiisa oo tiraado waka sidoo balay meel gareynaya waka hadda waxa socda dadka nimka isku soo xadka isku soo xiranaya xanta dadka ka sheekeynaya hebel saas uu ahaayo heblaayo qaawar uu tagayo kan uu yeelayo kan uu yeela Soomaali arag duub qofka ku balay meel gareynaya duub record garee adiga cayradaadu la wareegay Soomaha adiguna waa inaad codkiisa wareegsaa waan ku dilayaa tudheelka hadaad igu iman weydo yeela dhalatay cadaabtu yaa ilaahay u sameeyay cadaabaha ma gabdhaha kaliya ha duub markii bar telefoonkaaga recordingka ku xidh mar alla markuu ku soo waco save taabo xitaa telefoonkaaga uu ka xumaan karaa ka download garee telefoonka meel kale ku save garee waa inaad evidence-kaaga dhan ururisaa qofkana ku balaag meer gareynaya naag iyo nin ha noqdo ku soo wacaya oo duuban save garee iPad muxuu ahay laptop download garee dabadna save garee codkaasi waa inuu ku save gareysan yahay markuu ku soo hadlaba waa inuu ku save gareysan yahay mar walbaba waa inuu ku save gareysan yahay adigoo waxaagii wataad leedahay ma nooli gurigana waan qaxayaa waan dhimanayaa waa taqaanaa dee sida laysaga oohiyo reerahan aynu la joognaa reer qalbi xabxab markaa tiraad marada madaxan ku sitaayo anaaba ka baqaya inaan istilo waxana la igu hayaa ala duul margii xume saasa loo soo jiiday nin naag wuxuu yahay dabadna modern slavery blackmailing bay ku hayeen dadkan baa la leeyahay soo taag maxkamad dadka Soomaaliyeedna soo hordhig cirkiyo dhulku wax isku yaraadaan kuwiyo la xidhay kuwiyo maxkamadaynayo maxkamadahan imika waa loo goliyay kamarada kuwiyo la wado wax walba keen taamiya waa tii berigi gabadhii magaran blackmail gareyn jirtay kaamiya nin gabadh siinaya iyo mid u dhawaanaysa de mid uu rabto fitadeeda in banaanka la geeyo mooyaane maba jirto marka fiidiyowgan horta ii share gareeya billahi calayk qof kasto ku jiro waa inaad share gareysaan waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ka badbaadaan dulliga lagu samaynayo gabadha arinta xambaarsan hadii ay tiraahdo qiirada iyo oohinta iyo murugada la nool intay aniga ii warramaysay ooyeysay maanta lahayd kaalay waxaan ka hadal kaalay waxaan hayaa ka hadal hadii ay idin yeesho inay idin soo hor fadhiisato anigu waan keenaya marxuumada dhimatay warkeeda haysay ma garanaysaa inkastoo caruurta dumaceeda ilaalinaya bay tiri waana wax logic ah marka muxuu ahaa gabadhan kalena de anigu waaniga u diray waanan caawinaya haday maanta soo istaagto iyada laga rabaa maanta inay isxoreyso hadii kala dulinimada ha ku noolaato hablaha ku jira ee ku nool ee fiidiyogaygani gaarayo waxaan haystana waa inay yiraahdaan dhibkana ay haystaa gabadh arrinkaygu soo gaadho gabadha fiidiyogaygu gabadha uu gaadho ee dhibaatadaas haysato soo bax cidda ma Soomaaliya joogtid Soomaaliya xitaa hadaad joogto diga daawato ila soo xidhiid dal iyo dibadba meesha joogto adigu ila soo xidhiid aniga waa ballan inaad muxuu aan wax kula qabto waa ballan waxay doontahay ku qaadato adigu ila soo xidhiid haday waxaas ku haystaan intaad naftaada guhaadinaysid intaad muxuu ahay xaaraan iyo dib kale sii galaysid oo daqan yar xunada naftaada u quudeen intuu ku sasabtay ku xumeeyay kamarad ka duubay kaale صباح ولا جاه ربيا نن حبض لما دلن نن عيبت لما دلن صباح هكون نورانين مرجو يدبعته هكون نورانين هقول قبستنانين وهستش هقول نقنن لا هيسته هقول نقنن وحن لا مدنين إن لا هذا والدولة بعرف كده هستش كون نقنيسيد ما أدري هو يوروب شوقات ناق عرفت يا رسي قارسة سوق قارسة سيدا يودي إكرتا وحاسي سيدا عقلي قاعد فكرية انت عورض هذه اللي دوبتي هي رشارية دو نقو انت عورض هذه اللي دوبتي العقد هذا ناقي هكا قادو انت عورض هذه اللي دوبتي وحول بالله يسكو كادري مياد وارنت هاي ناياهي حاجات شوقتا بوليس با كula jooga maxkamadaha kula jooga sharci ba kula jooga maxaa kugu dhacay hadii wadan waa la yiri ay ka shaqeyso wadan waa la yiri hadii ay aan joogo wadan ay ka shaqeyso waa la yiri wadamadan qofku hadii la dilayo oo qofku uu dilayo oo guriga markuu joogaba uu canaha qabanayo oo aad tiraahay qofkan waa la dilaa oo waa la qajiiriyaa oo waa la kufsadaa
oo qofkii miyir qaba loo yimaado waxa la sameeyaa wax la yiraahdo mental health mental health capacity mental baa la sameeyaa waxa la asas gareeyaa inuu mental qabo kelmadii baa bigisay inuu maskaxdiisu caadi tahay ma garanaysaa wax marka loo sameeyo muxuu ahaayay MCA ga oo maskaxdiisa assessment lagu sameeyo qofkani inuu haysto miyirkiisa haysto oo maskaxdiisa qabo hadduu yiraahdo anigu waxaanaad sheegaysan mana maqal mana araga waa edeb darantiina idhaafa ixtiraam waxa lagu oranaya qofkani qof dhiig baxaya hadduu imika cusbitaalka yimaado waa la yiraahdo dhiig joojintan baa lagugu mudayaa oo sharciga waxa wadankan ah ama wadamada de horumaray in qofka la yiraahdo isagoo dhiig baxaya xitaa la weydiiyo waxa la siinayo ما هينا أدوق تلاهيد قف كان يقول لك بحياة طبعا دوّده وأوباهية واحد كستد قف كوق قبنا يسود ويديني سا هبل وحيا وحاسا صعدة وحاسا لقوا مرة عليه ما كتب ما يهدوك يدادو وحل إيه يعني مسكحد سعادة تاعي مسكحد زادي عادة تاعي وكيدادو أنا قوم مرة بو لقوا ما مدي مايو هرت على هدوك كل أنت تقف كود يدا على ورنايا وأنا قف محوها هاي كباسة هايستو مير قبوا مير كيس تشوق مركا ودن كان وحبك كمان قبل كرتيد هدونا قف كوسن هايسن وح عضين أما قفكو إنه صباح ويرهض يس وحني ما دعين يس ما كقول دعين يس ما لقوا دوبة يس العكس ما لقى قاعدة يس وحبك ما قبل كرتيد سكة القفكو وتقان حبوا ما قبل كرتيد هدو قفكو الروا ما evaluation ما هو assessment فردوسي mental health assessment ويا مركا وحويان ما mental capacity assessment ويا حبيبتي مركا وح قفك بني آدم كهدون قفكو هدلين أو أورنين waxaan waan qabaa booliisku hadduu si kasta u arkay waxba kama qaban kara marka adiga iska saari kara gabadhan dulmiga ku jirtay ada iska saari kara oo marka su'aal baan ku weydiinaya walaal haddii imika ninkii ka duubay ee naagtii cawrada soo dirsatay uu ku guursaday oo yarad uga dhigay adiga cawradaada uu ku qabo oo ilmahaaga haddii ku yiraahdo ii dhib waan fuulaya haddii kale waan ku sheegaya ma yeelaysaa de ilmaad haysaaye المهنا هدول هذا عن فول ميدو جين دلعكتي واد جيسي نفتاري واد ليسي سكول قبض كسر قاضي كويدي قري جنا واد وش أضو فيق ده نكن هدول كلها المها جنا عن فوليا إيه كان ميت كيالي وحوي ماني والبلوك بالغوب حنايا ماني والبلوك بالغوب حنايا سو ما ذا قرنين بيواي وحسك علي أنا ماني قاعد أدي كوتشي هاي أدي كوتشي من جد الدار كده هذا هيا أما ودنا ويبكوا تاجنته تيسكو قلقل ده ما يسكفوتشي أدا أوجي عيل بل هذا كأقول نقول يا إلهي بكون دارته عيل وان كجم إيواي هذا الكاس وان كجم إيواي مركا وحن وحويان وحلقة يعني جي لقى أشو تذكر صوماليات سوشيال ميديا هالكاس إننا لمريسا كمرضي هالكاس إننا لمريان رجع حاسس كودي بمريان تذكر مجينا ده هاي سكان سنة يكرر ضي مريسا إنك لقى هاي مريسا إن حنتي اللي صور دقي مريسا إنت اللي سكعاي مريسا إن دب عن ربين إنه يسوق على السوشيال ميديا أي سوق على ناق إنت كعاي السوشيال ميديا اللي أكير لي كل اللي سكير هذا مريسا ورمضي هاي أنا بقرن ما يمال الله صعده مال الله صعده يدك كان مالك السعودان يا مالك السعودان ما قرنا يا والله العظيم أما I don't know ما هش الله صعده قرن مايو رجوا وين ayaa intay duubaan ba waxa lagu dhageysanayaa la leeyahay maanta waxa daawanay dhageysanaya barnaamij leeyahay waa musasalo ilaa 2013 ku soconaya muxuu yahay waxa 2013 ka soconaya nin dhan ba wuxuu ku faanaya arintii maba idin soo gaadhin ba ceebtii hebel oo naag fuulay oo yiri naag baan fuulay iyo sheena cilayo naag baan fuulay yiri iyo wixii ba waxa la wareysanaya nina wuxuu leeyahay ha intuu deeb brown iska dhigay arintani waa arin weyn waxay socon doontaa ilaa waaba firin lama talay buu leeyahay isagu dad badan ayaa ku jira haddaad maqli jirteen riwaayada looma kala maqana marka la xayeysiinayo Soomaaliya looma kala maqana waa habaladii waa bari xagga dananka xagga muxuu helib muxuu kamanka qaaliga waxay idin tumaya hebel muxuu ayay xiriiriyaha waa inkaas wada garanaysaan ma maqli jirteen idinku Soomaaliya markaad joogteen dadka dhalinyarada dambe ma soo gaadheen intii riwaayadaha gashay riwaayadaha inuu gali jirnay ee live ka aha ma garanaysaan iyadoo la yiraahdo maanta waa riwaayadii halkan waxaad u timaadeen hagar lahaynba maanta aad naga helaysan ma maqli jirteen nin baa wuxuu isku xayeysiinaya arintu waa arin badan waa arin soconaysan bilo sanado waxa weeyaan looma kala hadhin dad badan oo daaraw
بولي هيا قبيلة بدن بيجلسها محي قبيلة جلسها وقبلها فوليو قبلها فولي هبل ولا الناس كاسان هبل بانك تسوي تجي وهرج waxa ka shaqeysanay ilaahay baan idinku dhaariyay wuxuu barar ku yahay wuu soo socdaa buu leeyahay lama kala hadhin dad badan baa ku jiro matiray wuuna soo socdaa waxa daawateen waa wax yar buu leeyahay waa filimkii maalin dhaweyta la lahaa waxa laga duubay shiina culay baa ninka duubo hadlaya ayaa waxa la wareystay ninkii yiri waan ka duubay uu iga duubay waxa la yiri waxan wixii baa la weydiiyay kelmadda kaliya ka qabtay waxay ahayd oo ka naxay hawl brown u yahay ha waayo wax kale lagu ceesho male YouTube wuxuu noqday wax lagu ceesho aniga idin soo gelinaya xayeysiin waxaan idin leeyahay hablihii la qaawanaa ayaa la ii keenay fiidiyoyadoodii bal gabadhii sida loo qaawiyo aragtaane kaale daawada idinkoo dhan waa soo yaacaysaan eeg maanta hadda waxa weeyaan most waxaad igu daawanaysan 350 waxaad tagi doontaa markay hadlayeen inamadaasi 2,200 baa daawanaya Soomaaliya ayaa dhageysanayay 2,000 oo online aha maxay online u ahaayeen waxa la soo casumay oo loo sheegay ninkii cawrada duubay ee in la isfuulaya duubay ayaa la wareysanayaa sidoo wax u duubay kaaliya dhageysta 2,200 baa daawanaya inaan helo fusuq noqon taas ku cadeynaysa ma garanaysa yacni marka wiilkaasi wuxuu ku goodiyay oo uu ku dhacay heese arinta waa badan tahay dad badan ayaa ku jira looma kala hadhin daarood baa ku jira buu yiri hawiya ku jira muxuu ahaaye waxayna socon doontaa ilaa 2,000 iyo something ka ayay socon doontaa dad badan baa ku jiro ceebtoodii la keenaya waa raggii Soomaaliyeed weeyaan niman ba daawanay ba ku jira ma garanaysaa ilaahay baan idinku dhaariyay marka hadda aniga haddaan idinku idhaahdo wiiga dambe aan idin soo galo idin idhaahdo waxaan idin sheegay soo ma ahayn gabadh baa la qaawiyay oo lagu toojar gareynaya filimkii laftiisii baan soo bandhigayaa soo yaaca haddaan idin idhaahdo oo barita idin soo dhigo page-ka oo idin idhaahdo maalintaasan ka warrami doonaa toban baad igu soo galaysaa nahadhow mana sugi karnee maad berri meed soo geshid ma sugi karnee saadama maad maxaad u dhareeraysaa cawro gabadh Soomaaliyeed adigaaga saa ugu dhareeraya haddii la dhaho adoo qaawan baa lagu duubay sarjoogad ka dhici lahayd waad muraar dilaac ila cuntaduna kaamay degteen laakiin waxaad ku tahay farxad ku tahay inaad daawato gabadha qaawan la keenay ma daawatay gabadha qaawan ma daawatay gabadha qaawan baa lagu oranayaa wallahi billahi qadka qaab xulay maxaad uga hadli weyday cali maxaad uga hadli weyday gabadha caynkan maxaan ka hadlaa walaalo wixii maba arag anigu ma garanaysaa marmarka qaarkood maba arag markaas la oranayaa de gabadh baa caynkan oo fiidiyogeedii baa la keenay oo halkay joogtaa waa caynkan waxa weeyaan gabadhii baa caynkan yacni dadka oranaya maxaad uga hadli weyday waaba dad damiir la weli oo waxaan nacdal oo inaga reeb oo dadkan yacni dhaleeceele waaba sax laakiin anigu ma arag markaan oo saadan oo arag baa la leeyahay waa la yaabaya waxa ku raadiyo saa ku raadi maxaa anigu raadinaya gabadha ceebteeda inta igu iyada ku taale inta ili bay ku taale ama haday doontaba hooyadaaba iga jir qurux badan aniga ceebteedaaba ana ka ceeb badane maxaan raadinaya anigu imika fiidiyoga maanta waan dhageystay ma hadda washo waa dhageysi wiilashaasi maanta ay ahayd mise shalay markaan dhageysanayay uma dhageysanaynin inaan ogaado waxaan u dhageysanayay maadaama la yiri ninkana duubay bal waxa ku kaliifay inuu sheego waaba waxaaba ka sii daro dibi dhal ah sidoo u goodiyay waa badan tahay bulay arrintu halkaasan maraynaa qof marka safe ah ma jiro maanta hadii lagu yiraahdo adduunka waxa soo galay libaax dadka cunaya oo libaaxaasi hadda dariiq maraysi mid dariiq marayu qaatay mid gaari ku jiro muraayada kala baxay mid hurdu gurigiisi daaqada uga dhacay maxay noqonaysaa qof waliba inuu israado safe badii daaqadaha si fiican u xidhxid gaariga daaqadiisa bal iska xidh ma nabar qaado qof kasta waxaan ku sheegayaa marka taa mid la mid ah inagu socota qof maanta wiilka guurka sugaya gabadha guursanayo gabadha aad guursanaysid lafteeday wax aba yaraatay cid safe aba yarba cid safe ayaaba yar waayo wax kamaradu cusub tahay bayna noqonay wax kamaradu cusub tahay oo faasiqiina oo wadankoodii gubay oo dhibaato ku dhacday oo rafaaday oo baayo hoogay bayna noqonay dad waxaynu noqonay gabigooduba aggressive oo cawro un doonaya I think Soomaalidu intooda badan waa wada beautify maxaa ka rabtaan cawradan dadka way baan u wada raadinaynaa gabadhan qaawan maxiisa u qabtaan dadka gabdhaha qaawan raadinayo soo kuwan gabdhaha qaawan ee bulowga iyo balaaga iyo cadaanka iyo wax walba le ka buuxaan
يعني inaad aniga i ceebaysid oo dhulka i dhigtid maxaad ka faa'iideysaa miyaanad dhageysan inuu ilaahay yiri qofka ceebta dadka doondoona ana ceebihiisa ku maqan way bad adigu ilaahay isu dabagelinaysa ceebahaaga inuu raadiyo ood ka rabtaa dadka iimaanka in ilaahay ka qaad ilaahay ka ma qaadin shaydaan baa ka qaaday way bad marwada xalaasha ku ah u duubi wiiliyow ila anagu wali ma hayno gabadha leeyahay ninkeeda fitadiisa iyo cawradiisa way duubtay wali ma hayno gabadh baa nin shukaansaday oo ninkiyo qaawan duubtayna anigu wali ma hayo ma arag marka gabdhaha uun la duubayo ragganaw way baad u tihiin uun involve ugu tihiin inaad gabdhaha cawradooda banaanka soo dhigtaan oo u ceebaysaan gabdhaha daciifnimo ku ogaateen weeye hablaha aad daciifnimada ku ogaateen aniguna ana u dhisay muxuu ay kalsoonida ana kalsoonida u xambaarinaya ana u soo fadhiisanaya YouTube oo u soo fadhiisanaya Facebook oo mid yar u soo fadhiisanaya oo mid weyn u soo fadhiisanaya inta damiirka Soomaaliyeed ku jirtana waxaan ka codsanayaa fiidiyoogayga inay meel walba gaarsiiyaan aniguna waxaan rabaa inaan gabadh kasta intaan u soo galo idhaahdo miyaa laga duubay waxba ma la duubin ana kugu daatay weey waxani kor uga bax soo dhig isaga soo dhig ninkaas haduusan soo dhigin xitaa waxa codkiisa duub isagoo kule sawir baan ka hayaa ama waan ku duubay ama waad qaawan tahay kule soo gali codkiisa duub codkana soo dhig markaad soo dhigto waxa tira Soomaaliyay laba kala dhaxaan laba kala cadoodaan leesmana fiiriyaan alaabteedii qaawan baa idinku soo socotay digniin ninkaasana iga duubay codkiisa sawirkiisa soo raacay annaga kuugu tagaynaysa soo raacay inta damiir kale oo dhan baa kuugu tagaysa oo dhulka kula dhigaysa soo dhig codkiisa duub recording ku samee kabarad kasta iyo sawir kasta mid kasta oo keena waxaan tusaynaa inuu isagu ku gubto si looga caado gabdhaha in la duubo si looga caado marwooyinka in la duubo si looga caado in dadku kala shakin nin iyo naakasta qof alla qofkii wax duuba banaanka soo dhigayna anaguna miyaad soo duubtay ha adna waa ku kan waan dabagelaynaa qabiilkiisaan keenaynaa hooyadii baan keenaynaa duulada ku koraan keenaynaa cidda caaqilka u baan keenaynaa meel kasta inuu shafarta ka soo gelinaynaa dabadeedna sawirada inta war xun yaa sheegaa la yidhi nimaan loo diran kuwa ciyaalka taagan Soomaaliya anaga bilaa camalka Soomaaliya baa la odhanayaa $10 baan idinku shubayaa saadka sawir kasta qaado bitabeelaha ku dhajiya naagta meesha ku aragtaan iska ilaaliya gabdhaha ay duubta ninka meesha ku aragtaan gabdhaha carara ayaa la odhanayaa ka gabadh kubsada ee la waayo same qof kasta waa duubayna annaga ka dabagaciidnaba journal baan ka dhiganaynaaba soo carara maantana ka ku qora journalka social media Soomaalida oo dhan wayna qaada dhigtaan ninka oo la keena marka war la qabo xiisa malade gabadh kasta oo la qabsanayo booliis ha geyso ha booliis bishaara waa run booliiska ha geyso ma sharciga ha geyso Soomaalina ha soo dhex dhigto qurbaha iyadoo ka dhacday arintaasi iyadoo qurbaha ka dhacday waa in laga war helaa wadankii la geeyaa waa in ninka aniga hadda gabadhaasi haday ii soo gadbaxdo ninka iyo naagta intaan qaado oo sawirkooda qaado ayaan UK meel walba iyo Europe iyo America meel walba ka soo tuuraya social media markaan saa ugu soo shaandeeyo ayaan wallahi ku bixinaya Hargeysa baan dhigaya Booro baan dhigaya Erga baan dhigaya Laascaanood baan dhigaya Buuhood baan dhigaya Xamar baan dhigaya Buliber baan dhigaya Kismaayaan dhigaya magaalo kasta inta wiil joogta ayaan leeyahay martaan $10 idinku journalka ay qaybiya ku dhadhajiya meel uu ka baxo isagoo boorso sito oo dhajir qurbahan ka imi magaalada tagi jiray baan rabaa isagoo meelaha ku dhadhagan inuu tago hayay maadiga yimid gabdhaha u carara waqooyiga waxay dhihi jireen ciyaalku markay soo afjaaqayaan ee la caysanaya waxa caysanaya ay isu sheegayaan ciyaalow li haday ku yiraahdaan waa carar Soomaaliga waqooyiga laga yaqaan li ciyaalow wadii lagu yiraahdo isjir weey carar waalidiinta adiga wax qasayo wax qarbidayo wax maxaynaya ama wada wax la idinka celinaya sameeynaysan ama aad muxuu ahaayay ay wax qaribayaan afgarashadoodu liibay ahayd carar weeye meesha aragto ciyaalow li hadaad maqashid jaanta rogo weeye yaa lagu qaban Soomaalidan fahmin Soomaaliyay li baa la odhanayaa Soomaaliyay li sawirka nala qaybiya waka cadeyntiisi waa kan gabadhii waa tan bahalkii waa kan codkii waa kan aan qaybino dabadna waa la qaybinaya xagu ku gabanaya isagu xagu tagaya aabihiis noo keen xitaa aabihii keen hadaad garanayso de gabadha qaba aabaha way taqaanaa Soomaa aabaha keen hooyadii keen way cisho waayeen Soomaa reerkoodana keen gabdhahooda keen waa la sawirayna waa ku dhijinayna reer ceeb wade waa qaban weyda haday qaban waayaan weeye ila aabaha iyo hooyadii iyo gabadhu wax may sameeyeen haday qaban waayaan ceebta wiilkooda ku raacaan dhamaantood oo dhan baan oranaa reerka ceebta leh ku dhajiya wiilkiina qabsada waa qaban weydeen
ما قبنينا قران كرنا مسؤول كمان نهين وين يدهدان أمة الصومالية وشيغان ويشيغ واين قبل كستا وحن كابلن قادaya inaan ku hiiliyo dalka hadaad joogtid dibadda hadaad joogto inaadan didanba ugu ooyin aan ku hiiliyo adigu soo bax fiidiyowgaagis markuu ku soo gaadho ali xaga iga xigtaade soo carar adigu anna waxaan ballan kuugu qaaday inaad in yar ku soo afjaro in isaga lagaga yeersiiyo waan dilid gareeye cidii uu diro ee uu kugu sii xidho ee adiga ku gumaysata ciidan qarisay jirin duub codkooda qof walba qof baa garanaya فيديو لا دوبو اما حاس laga duubo ama gabadh laga duubo waa in la soo xidhaa walaalo ninkaas ay qabay arur baan u dhalay ninkaygii weeye wuu i duubay waa kan sawirkiisi waa kan qabiilkiisi waa kan codkiisi waa kan soo download garayso telefoon kasta cod lagu duubuleeya barnaamijka soo programka soo download garee A to Z duub codkiyo sidiisii aynu soo dhigaynaa soo boos gareynayna hadalkiisi oo la maqlayaa soo boos gareynayna sawirkiisa iyo codka ayay inta la saaro ayaa qof walba la oranayaa page-kaaga gali dabadna waxa la oranayaa maqlaay arkay qofkii arkaba si share gareeyo haduu maradiisa ku guban weydo hadii sharci mid la tigsan karin baan ka hadlaya mid arigiisi raac hadda sharci baan la tigsan karaa la soo qaban karaa waa maya Soomaali dawladda kama jirto halkan waa la soo qaban karaa Yurub iyo Mareykan iyo North America iyo Arab iyo Ajab wadan kasta dawladda ka jirto waa la soo qaban karaa ninka aan ka hadlaya waxa weeye nin kasta horta laakiin waa inuu ceebta kula doonayo Soomaali oo dhim xaraashta la dhigdhiga idinkiiba isu jabinayo nimankiiba qarinaysan oo murigadii baa la noolaanaysan oo lacagtii way idinka dhamaatay oo naftaadii baa dhamaatay oo nimaadan doonayn ba habeen walba ku galmoonayo koodhanaya hadda doonta isagoo ku qaba aad nacday ayuu ku tusiyaa sawir buu koodhanaya khasab kugu galmoonaya maxay meena kufsi ahayn iyo reeb waad nacday Soomaa maxaa lagu toojar gareynaya sawirka ad isugu dhiibi waraadaha waan idin baryayaa eebaha anigu kabahan u soo gashaday waxaan ku dhaaranayaa ilaahay ku dhaaranayaa ninkii gabadhii isoo gaadha waxaan ku sheegayaa inaan ku hiiliyo ee ii kaalay waan ku hiilinayaa inta social media ku jirto oo dhanna waan u qaybinayaa adigana waan ku hiilinayaa cod ku hadlaan noqonayaa ninkaana waa kula ceebaynaya murugadaad ku jirtana waan ka saaraya anoo ilaahay kaashanaya dawladda haduu Yurub tahay meel kasta joog wadan kasta Yurub joog meel kasta joog ilaahu may noqoto inaan ku soo dhafo booliska kula galo gabadhii waxa ku jirtay kaale adigu ana ballan kuugu qaaday macaawa cid guriga dhex fadhiya maxay ga dhaarsanaya ma waxaan u hayaa amal laakiin waa shaqadayda mid kamid ah gabadh muruga maanta ma ay taagan tahay ba hooyo Soomaaliyeed intay xiskeedii weyday telefoon laga dub in nafteeda u dishay muruga ka weyni ma jirto oo maanta caruurteedii ciil iyo muraara dilaac ay ku nool yihiin isna uu cararay Soomaaliya fahmin marka gabdhaha iyo Soomaaliyada wanaaga jecel baan la kaashanaya ilaahu kharashkay doonta ku baxdo wiilasha Soomaaliyada wanaaga jecel baan la kaashanaya Soomaali oo dhan oo wanaagsan baan la kaashanaya aduu soo bax aduu intaad soo baxdo oo waliba gabadhan garanayay ee gabadhan imika London ila deganay soo bax saaxiibada haday baxsatay oo iyadu ka dhex baxday meel laga la xidhiidhan la waayay macaliyada nimanka ka duubay baa laga daba geenayaa soo bax adigu isxore caruurtaada lacagteeda aad bixinaysa jooji gurigaaga furihiisa la haystana jooji naag iska dhiginta dhexda xidhato soo bax inuu san inta la qabto booliisku qabto la garaaco 2 sano jeelka la geliyo telefoonkiisa la wareego lala hadlo social media oo dhan la trace gareeyo meeshu ku share gareeyo dhan la eego dhulka la dhigo fiidiyowga laga saaro ceebtaada cidi arag isaga la xidho naagta la xidho aan balankaaga qaadaya ku tusaya adigoo sacabka saa u tumanay labada dhaban iga dhunkada soo bax cid kale ha u sheegine haddaad ka baqaysid oo leedahay ninkan aniga ima qabin maadaama uu qabin dadkan ka baqaya in ninkan iyo aniga ma la isku kaya arkay ila waa inta waxaad ka baqaysee cidina iyadoo ku arag labadeena dhamaynayna soo bax ana intaan kula dhameeyo oo walaalnimo kula dhameeyo oo garabkayga aad ku oydo oo garabkaaga istaago oo dawladda ku geeyo oo lawyerka ku qabto oo wax kasta ku sameeyo ayaanan noloshayda intaan noolahay la iga maqlaynin ee soo bax gabar Soomaalinimo hooyo Soomaalinimo kugula dhimanayee soo bax fiidiyowgayga wuu ku soo gaadhaya la kii hore aan duubayba waa lagu soo diray Soomaaliya fahmin soo bax marka fiidiyowga ku soo gaadho anaa ku ballan qaaday inaad murugada aad ku nooshahay aad ka baxdo hadda ka hor bay ahayd channelka laga hadlo oo 114 oo culimadu soo galaan oo laga maxaadaray ay gabadh soo gashay
aan dhagahayga ku dhagaysanayay ay tiri gabadh baa iga haysa sir gabadhaasina way i adoonsataa waxay tiri waxay ahayd kelmadda ay tirtay waxay ahayd ninkayga anoo la hurda bay tiri hadda waa meel Soomaali ay ku jirto intaasoo milyan waa laga yaabaa qaar idinka ka mid inaa ku jirteen oo dhageysanayseen kelmadda isticmaashay waxay ahayd ninkayga anoo la hurda hadday gabadhaasi igu tiraahdo banaankan taagan ee soo bax maya ma dhihi karo sirta iga haysa awgeed bay tiri ma garanaysaa heerka inaad gaadho oo qof khayrkaaga ku gaarsiiyo oo aad dhibaatadaas ku gaarsiiso maalintii dhawayta arrinta haddaan ka hadli lahayn tan maanta ma keeneen waayo arrimaha gabdha ila wadaagay gabdha ii keenay sababta gabdhuhu iigu keeneen ee ila wadaageen waxa weeye maalintii dhawayta markaan ka hadlay bay dhahan arrintan taala waxa laga yaabaa kuwa ka badan maanta inay soo baxaan Soomaalida fahmin hadda ka hor bay ahayd laba gabdhood baa channelka ka soo galay gabadhi waxay tiri gabadhi sirtaas iga haysaa muxuu ahaayay waxayna igu tiraahdaa yacni sidii doonta iga yeesha iska celi waxa tiraahdaa naaya waxa doonta sheeg gabadha labaadna waxay tiri oo ay tiri iyadana waxay ahayd arrinta labaad ay tiri waxay ahayd gabadha labaad waxay tiri gabadha kale waxay tiri waxaan joogay Africa Ethiopian joogay ninkayga ayaa ii dacwoonayay ninku intuu ii dacwoonayay baa shaydaani qaaday waxaan sameeyay galma xaaraana in uur baan qaaday uurkii ilmihii wiil buu noqday waan dhalay ilmihii markaan dhalay adiga ilmihii waa dhintay waa in la dilay waa la dilay bay tiri marka waan soo dhoofay markaan inan saaxiibtay oo kaliyaana ii ogeyd bay tiri gabadha saaxiibada ii ogeyd Ethiopia ayay joogtay gabadhii maadaama ay siriga hayso biil bay tiraahdaa ii soo dir waxay joogtaa meesha la yiraahdo Ethiopia sidii bay tiraahdaa ii biil waan biilayay bay tiri gabadhii haddayba waxay soo dhajisay naaya $1 lacag soo dir naaya $500 lacag soo dir haddii kale wallahi waan ku sheegayaa maxaa su'aashan ka helay waxay markii loo jawaabay nin wadaada ku jiray wuxuu ku yiri waana midaan dhihi lahaa de na ilmihii miyuu nool yahay markaasay tiri maya gabadhani miyay wax sawiraaha iyo video iyo ilmihii nool miyay haysaa markaasay tiri maya xuma hayso waxa dhacay bay ogeyd ee wax evidence oo la hayaad ma jirto wax cadayna ma hayso suu hadaa yaa baas ilmaha dhalay de ilmahan baas lagu la daba socdo miyuu joogaa may sawir ma la hayaa may ma la hayaa waraaqo may maxaa ka baqaysaa buu hadda maxay sheegaysaa de inay ninkayga ay ogaado oo ninkayga loo sheego oo maxaa yaalay loo sheegay buu yiri hadal naaga tiri haday tiraado naagtaadu ilmay dhashay de ilmihii keen weeye waraaq cadayn ma naanaga ta wasaqad yani reerkayga hasku ka ay dirine simple bal arag 2 sano biilayay bay tiri 2 sanadood ayaan biilayay haddaad maqasheen slavery baa jira Soomaaliyay haddaan daba galo maanta 500 case baan idin keeni karaa oo wada noocaas lagu wada haysto hostage ilaahay baan ku dhaartay waxa la yidhi miyaad ilma haysataa may ilmi miyuu nool yahay may waraaqa ma haysaa may maxaad naagta ku biisha de waxaan isir way waramin oo maxay sheegaysaa baa la yidhi haddaan aniga iga nimka idin la hadlaya idin idhaahdo gabadha hiblaaye ah ilmay dhashay ilmihii saas u ahaa yaa iga rumaysanaya cadaynkeen baa la odhanayaa warkii adoon buu kugu soo noqonaya naar naga tag balaa kugu dhacda la wada odhanaya gabadhii markii bay waxay noqotay inay baraarugto wallahi ma garanayo sidaan ahaa unbay ku waalat ma garanayo sidaan ahaa ma garanayo sidaan ahaa ma garanayo marka waxaan kuu sheegayaa idin sheegayaa haddaad waxaan sheegayo idin leedbeen waxaaye wax ka badan baa huursan hadda waxa weeyaan intii aan kliibka duubay intii ka dambeysay week markay ka soo wareegtayba gabadha baa ii soo dirtay gabadha dhimataa la ii soo diray haddana weekana la ii soo diray muxuu ahay gabadhan kale la isugu tegay soo kamaan hadlin 200 oo case baan idin keeni doonaa idinku ogaada dadkoo yaacaya ay soo galaya tanaan ognahay qofkaad ku tiraahdo wajigaaga ha tusin dadka halkaa fadhiiso kamarada dabadeeda arrinta waan ku weydiinayaa su'aaluhun ka jawaab ma ogolaanayaan waayo waan kalsooni baan jirin qofku inaad ceebta asturi karto ayuunan kaaba aaminsanaynba waan ku qorayaaye muxuu ahaayay adu iga qorun ma garanaysaa 200 oo balaayay ku sheegayaan iga qorun bay ku odhanayaan walaal waxana jira nin baa sidan naag baa sidan loo sidan baa la galay laakiin ma hadli karo ceeb maaha marka waxaan idin leeyahay walaal waan Yusuf kuma soo qaban karo insha Allah messengerka insha Allah igala soo xidhiid biidnillah waan baxayaa khayr Allah idin siiyo meel aad joogtaan ba akhriya adduun liibaan Allah idin siiyo
waxa maanta dhacaya qof hadaanay ku dhicin wala qofka Soomaaliyeed ay ku dhacday ee maanta aakhire aaday ee gacanteedii isku dishay ee sagaal caruura ka tagtay ee inta silcaysay ee dhibaatada martay ee waxa masmiirkeedii tahay hooyo Soomaaliyeed oo waxaad ka wada mirigooteen barnaamijkan inta share gareysaan campaign baan rabaa inaan u sameeyo oo aan weerar ku qaado oo gabdho kasta aan soo saaro oo wadankii la igala soo xidhiidho igu caawi inaad share gareyso oo meel walba ka tuurto inta aan igu caawi laagtii sharkoonisi wax kale kaama rabo waxaan rabaa inuu magaaliyo tuulo u gaadho oo hablaheena yar ee maalin walba ninku toojar gareynayo ee saaqadka toojar gareynayo ee kamaradaha laga duubayo ay maanta intay soo baxaan la qabqabto oo haddii meel sharci ka jirana ay tahayna sharci la hor keeno haddii meel sharci ka jira ay arrintan ka dhicina aynu u adeegsano qabaa'ilkii sidaynu inagu wuxuu kala qaadano laakiin aynu badbaadino hablaha dhibaatada haysata aynu badbaadino inan kastoo wanaagsan hooya waxaan ka baryayaa ii shargareeya campaign-ka ila gala idhiiri geliya muxuu ahaayay igala qayb qaata waxani waa dumis dhaqankeeni baa loo soo jeestay diinteeni baa loo soo jeestay dhibaataan haysata dad baa doonaya ilaahay baan idinku dhaariye يعني wax walba wax saynu caadi uga dhigin indheheenu ugu dhacayeen hadana waxa soo baxay wax leeyahay branki oo waxa runayo waxa saxda aadan kala garaneen ninkii xaaska lahaa ee isaga iyo xaaskiisiba brankiga beenta Soomaali la hor yimaadeen gabadhan guursadaan doonaya xoolo uusan lahayn isku soo sawirayay billahi alayk shan gabdhood oo magaalada u degan yahayna boosooyin soo jiiteen arrintan idinku simbal baad u aragtaan hablaheena yar ee maanta Soomaaliya jooga ayaa walaasha in adeerta waxaas ku dhacayaan barida mid baa branki kaasoo kala sameynaya hablaha run moodaya waxaasa lagu guursanaya gabdhaha dhaqankeeni baa lumaya waxan yaanigi umada yar baa qaadanayso la boodaysa inamada hablaha yar baa isooranaya rag ma jiraan guurkii baa qiimihiisa dhacaya gabadhaad guursan lahayd baa sharafteedii dhacaysa waxani bulshada waa saameyn weyn bay ku leedahay saameyn weyn ayay bulshada ku leedahay waxaan u baahanahay dad islaam baynu nahay dad sunniyiin baynu nahay dhaqankeena inaynu ilaashano umada wixii ka qofkii hadli karowba kaga hadal wixii xun aad nahinaysid bal gabdhihi oo dhan oo la qaawama kamarada la keenay oo la yiri nin baa gabdha kala dooranaya xageeydu ku naqaanay waxaas wadamada gaarada waxaasi ka jiraan haddaad imika aad aragto showga la yiraahdo Ismail Aylan la dhaho nimankii naagaha qaqaawan habeen walba ninku intaas oo naagood la seexanayo saaxiib la noqonayo wixii laga arkay gaalada ayaa gabdhihii Soomaaliyeed lagu sameynaya oo la leeyahay kaalaya la uusan lahayn guri uusan lahayn adduun uusan lahayn ayuu soo taagaya waa nin dhan oo aabba ilmo dhalayo hooyo ayaa taagan oo gabdha horteeda taag wax bal arag adigu ilaahay baan kugu dhaariyay haddaad nahisaan waxa isku wada tagtaan oo tiraadaan warna calad baa kugu taala waxa anaga hana hor keenin dhaqankii baad meel kaga dhacday diintii baad meel kaga dhacday gabdha qaqawana uusan muxunkooda ahayn buu meel isugu keensaday maxay tahay waxaasi ma aha inay waxaan indheheenu la qabsadaan qurbahan aynu joogno dhibaatada ugu weyn waxa weeye wax walba indheheeni baa la qabsaday umaba aragnaba wax xumaana uma aragno tomorrow gabadhaada soo jiidanaysa boorso waxay ka qayb galaysaa ka cadaanka ayay ka qayb galaysaa intaan faarax laga dhuuban u tagayo maan boorsada jiito inantaada bari ka qayb galaysa qurbaha joogta inamada qurbaha jooga ka qayb galaya waxaan run baa la moodaya haddii lagu wada kaco waxaan waa la arkay inuu fadeexad yahay subhanallah hadday gabadha yareed maanta aad dhashay quruxda badan ee chocolate-ka u eg ee leegleegsanaysa ay gasho meelaha cadaanka oo la yiraahdo waa feras muslim girl oo ka qayb gashay barnaamijkan la yiraahdo waa faraha lagu la boodaya inantaadu faraha lagu la boodaya waayo waxa la arkayaa meeshaynu marayno Soomaali hadaynu nahay hablaha wada bikiniga xidhan ee timaha ku yaala cawradooda ay muuqdaan ee wada qaqaawan ee iyagu u soo baxay meel walba gabadhaadu inay gasho oo way bay oranaysaa maxaan ku diiday soo ku Soomaalidu ba sameynayeen ee la daawanayay way baad u leedahay diinteena waa ku xaraan hooyo ila qurbay ku kortay diinta ma diidaysa oranaysaa aniga intaan faarax aadi lahaa nimankaasaan aadaya lacagta leh ee gabdhaha kala dooranaya Soomaalidu waa ku sameeyay dhalinyaradu waxaas sameyn doonaan haddayna nahinin oo isugu tagin oo ka soo bixin oo nacdalin oo eriyin marka waan salaamaya Soomaalidan fahmin anigu been idin la iman maayo dulmina idin la iman maayo fadeexadna idin la iman maayo laakiin waxa jiray xaqiiqda ayaan idin la imanaya sheertana lacag maaha laagtuna lacag kaaga ma rabo kama bacunin laakiin waxaan doonayaa inaynu arrintan wada nahino isugu tagno inaynu campaign u sameeyno gabdhaheena maalin walba xaaraanta lagu fuulayo la leeyahay hudheel hebel iigu kaalay haddii kale sawirkaagaan sheegaya waxaan ku qirayaa laba case maadaama 2 weeks iigu yimaadeen inay boqolaal
boqolaal soo daadan doonaan oo odhan doonaan ana tanaa laygu hayaa ana tanaa laygu hayaa ana tanaa laygu hayaa ood ka wada calool xumaan doontaan soo ma idin fahmin waxaan u baahannahay waxaan inaan campaign weerar ku qaadno insha allahu tacaala ilan raggu inaguma soo duurina waa raggeeniye aad baan idiin salaamaya dhammaantiin qalbiga iyo niyaddaan idinka jeclahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshaad joogtaanba guul habeen hadday idiin tahayna habeenka barwaaqadiisa iyo khayrkiisa allah idin siiyo maalin hadday idiin tahayna maalinta fatuuxaadkeeda iyo farxadaheeda allah idin siiyo aynu wada siiyo dhammaanteen oo dhan cafiyo caafimaad baan idinkaga tegey adduun iyo aakhiraba khayr iyo barakaan idiin rajaynaya insha allahu tacaala gabdhahana waxaan u baahanay niyadda inaan u dhisno insha allah waan idinku soo celinayaa wixii wara haddii ilaahay qadaro waad igala socon doontaan I love you too xabiibti qaali insha allahu tacaala waan insha allah waan idinku soo noqon doonaa mar walbaba khayr badan baan idiin rajaynaya wiilal iyo gabdhaba meeshaad joogtaan ma doonayno wiilasheena kuwa wanaagsanna wiilka xun inuu xaaraantimeeyo oo magacooda xumeeyo ma doonayno nationkeenu inuu kala qabaqo ma doonayno in wiilasheena sharafta leh meel lagaga dhaco ee diinta leh ma doonayno gabdhaheena wanaagsan in meel lagaga dhaco qofka xun isagaa xun hadda waxaa maraykan ka dhacay 200 oo qofba ka soo qaad dadka imika lacagta dhacaya maraykanka haddii cidiinii daawatay aad garanaysaan imika sheekadan 2 sano socota Soomaaliya oo dhan bay magaceeda qaadayaan laakiin mahma kaan 30 million nation ah 200 oo qof maaha irbad bad la darayna maaha dadka isaa u yari magaceena inay ceebeeyaan maaha waxaan u baahannahay waxa nation ahaan ina dilaya ee diinteena iyo dhaqankeena iyo dhalinyaradeena iyo next generationkeena dhaawacaya inaynu ka hortagno biidnillah ummadina saasay ku badbaadaa oo ku hirgashaa culimada Soomaaliyeed baan ugu dambaysiinaya meel ay joogaanba waad arkaysaan maalin walba cawrada indhihiina la keenayo ee arrintan inaad soo gashaan oo sharci ka soo saartaan oo meelaha joogtaan waxa ka dhaca idinku muxuu ahaa ciqaabteeda marisan ayaa la idinka doonaya inaad ka hadashaan oo sharci aad ka soo saartaan oo diintu waxay ka qabta ka soo saartaan oo aad nahidaan oo nimanka waxa ku sameynaya ee ragga gabdhahay qabeen waxa ku sameynaya culimada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arrimahaas maalin walba indhihiina imanaya maalin walba gabdhaha muusanaabaya maalin walba imanaya inaad wax ka qabataan oo aad ka hadashaan sida aad uga hadlaysaan gabdhaha islaamaha surwaalka xidhan ee surwaalkaasi 2 week uu haystay social media ama 3 week ba uu haystay surwaal waa bikh ee cawrada baa la idin hor keenay oo gabdhihii baa guryahoodii loogu galay oo reerihii baa guryahoodii duubanaya raggii baa xaasaskii aad u xalaaleyseen duubanayee culimooy waxaanu idinka baryaynaa inaad meelaha ay ka jilicsan tahay bulshadu aad ka hadashaan oo maanta sida aad uga wada hadasheen idinkoo culimo waaweyn aad uga wada hadasheen waa wax saxa in la nahiyo weeye role modelka hooyada ah ayeeyada ah anigoo maanta ayeeye ah markaan surwaal soo xidho idinku hor imaadeen halka qaawinaan la maro de cidaan wuxuu sheegi karaana ma jirto cidaan nihin karaana ma jirto waa role model gabadhaas maxay waxa samaysay in wix loo nasteexeeyana way fiicantahay iyadoo nasteexa ahaan ha u qaadato laakiin surwaal la xidho waxa ka ceeb badan ragana duubanaya culimooy inaad xaglinaysaan oo aydan aad indhaha naga lalinaysaan baan u aragnaa ilaahay haydin daayo oo haydin xafido oo jazaagiina jannaha ka dhigo guryahan soo farageliya oo raggan gabdhahoodii doonaya soo farageliya oo raggan ceebtayada ku ceeshaya ee jannada ku furtay soo farageliya oo culimaday fadhiga ka kacaan idin leeyahay idinkana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh culimooy surwaal meel laga nihiyaa ma joogto maxaa surwaal ilaa indhihi yaryaraa baa nala duubay be ilaa indhihi yaryaraa baa nala duubay oo irbadii iyo duntii baa la duubay oo muxuu ahaaye xuduntii baa la duubay waxba may hadhin oo ciradii iyo timihii madoobaaba waa la duubay oo wax allaale wax qarsooni ma jiraan culimada idina surwaal baa ka hadlaysa maxaa surwaalka meeshii lagu asturiyay banaanka taalaaye waa inay soo baxaan culimadu oo waxyaalaha aad loo baahan yahay inay ka hadlaan ay ka hadlaan oo raggan xaasaskooda duubaya ay ka hadlaan oo gabdhaha la leeyahay kuma furayo oo haddaan kuma furayo oo khasab baan kugu qabaya sawir baan ka hayaa ay ka hadlaan ha ka hadlaan culimadu arrintan ha ka hadlaan iyo yaraysanin waxaan sugaynaa culimadu inay ka hadlaan gaarsiiya wadaadada hala gaarsiiyo wadaadada billahi عليك ويأجيهن هلا جارسيو هرنتين إنك كهلان صور كبا واحد ركتين سروال كبا واحد ركتين تصور هذا قبلها قاوم بارك حيصلافينه ورجع نعضل النهية محاول مسنتين وقاعد مسنتين ماني والبعيرة للضوبة يوم سبحان الله السلام عليكم.